su-aasha labaad oo ah Ismaaciil i weydiiyey isku xumayn goormaa la joojinaya runtii annaga uma haysano waxaan ka shaqeynaa isku xumayn inay tahay waxaan ka shaqeynaynaa inaan masiirka dalka la leexinin oo majaraha dalka aan la leexinin annagoo taagan oo soo taagan waxaan isku haysanaa dad nafur badan samaynaya oo riski badan u qaatay runtii oo naftooda intaasoo jeer ama argagixisada ay aniga keliya inta jeer oo argagixiso ka baxsaday weerarkeeda ama meelay joogaan ay soo weerareen 4 jeer waaye inta ay dowladda weerarkeeda hadda joogtana 2 jeer waaye marka nafteena riski aan gelinay halis gelinay dadkeennii iyo ubadkeennii iyo faamiladeennii iyo waqti aan la qaybsanahayn ma bixinno dad badan oo runtii maaragtay nala shaqeeyo oo sacrifice-kaas iyo nafurkaas nala qabo sidoo kale dadka mas'uuliyiinta oo mucaaradkaane ama dadka kale oo siyaasiyiintana waa saas marka isku xumeyn annaga uma jeedno waxaan u jeednaa in la badbaadiyo dalkan saan u soo sharaxayna Soomaaliya maxadooyin ama waxay soo istaagtay safarkeeda dheer 30 sano ku soo jirsay qarnimadeeda soo ceshato waxay soo istaagtay maxadooyin badan ama boostejooyin wax la yiraahdo badan ay soo istaagtay safarku waa gaabis laakiin si uun laisku wada qanacsan yahay ku socday marka marna marka in arintaas ayada ah la burburiyo oo sida hadda aad sheegaysay colaadda iyo cudurrada iyo gaajada iyo biyabaxada iyo dilka iyo qaraxa inuu sii bato iyo qaxootiga ma rabno in la soo yareeyaan rabnaa marka wada kastoo arintaas lagu hor istaagayo iyo annaga aan ka soo horjeednaa balanbiima leedihiin dalkan haddeertaan annagu jabhada ma nihin dagaalamayo dad siyaasiyiin xisbiye leh damac siyaasadeed ku jiro raba inay masiirka dalka toosiyaan aan nahay dalka institutions uu leeyahay dimuqraadi ah waa urdun waa tabar daran yihiin aad u taag daran yihiin way iska sahlan tahay in lagu tilaabsado ama lagu istaago oo la dumiyo ama la manipulate gareeyo ama awoodda laga qaato iska sahlan tahay taasaan diidanahay waxaan rabnaa keliya doorasho in la qabto doorashadaasna haddii uu diyaar u yahay madaxweynaha xilkiisa dhammaaday iyo annaga aan ku tartanno annaga dhexdeena waa tartamaynaa oo dad tartan ka dhexeeyaan nahay oo qof walba wuxuu isleeyahay adaa u wanaagsan dalka inaa hogaamiso marka wax hadda laga baqoo leeyahay arrin faraha ka dhacaysa iyo talaa gacan ka baxaysadaas aad loo wado annaga runtii ma aaminsan umana jeedna arrintaas ayada ah su'aalaha cali uu weydiiyey waa su'aal aad macno u leh oo ku maasan tahay midda hore maxaan ugu yeernaa xukuumaddu runtii waa xilgaarsiin sideedana moogtahay xukuumadda ama ra'iisul wasaaraha dastuurkaa dhifaangareeya ama dastuurkaa qeexa ra'iisul wasaaraha xilka waa loo magacaabaa ama waa laga qaadaa baarlamaanka ka qaada ama haddii xilligiisa dhammaado oo hadda sida hadda dhacdoo kale waa inuu ku wareejiyaa xukuumad kale saasaa ku qoran dastuurka waa inuu ku wareejiyaa xukuumad kale marka xukuumadda xilgaarsiinta anaga ay noo tahay agteena waa xilgaarsiin laakiin dastuurka meeluu ku dhahaya ma jirto madaxweynaha xilgaarsiin uu leeyahay madaxweynahan 4 sano xilkiisiyaa keliya uu sheegayaa marka ma jirto meel la leeyahay madaxweynaha xilgaarsiinta waa meel la leeyahay ma jirto labada guddoon labada aqal waa xilgaarsiyaal waay maaha guddoomiyaal annaga toos ah oo hadda mandate full haysta agteena kama aha xilgaarsiintay qayb ka yihiin sidaas oo kale ayagaana sameeyey legislation ay leeyihiin waxaa jirto 26 inay tahay u malaynayaa go'aanuu soo saaray baarlamaanka jiro oo leeyahay hay-adaha baarlamaanka ee dastuuriga ah hay-adaha baarlamaanka labadiisa aqal waxay sii helayaan xilka intii uu ka imaanayo baarlamaan laga doortay iyo sidoo kale hay-adaha dastuuriga ah meeshaasay tiimka madaxweynihii hore waxay ka raadiyaan naf laakiin anigu sharciga maadaama aan bartay weliba qaanuunka dastuuriga ama constitutional law aan ku takhasusay waxaan inii sheegayaa dastuurku wuxuu u baahan inuu specific noqdo oo yidhaahdo sidoo kale ma aha waa inuu yidhaahdaa madaxweynaha iyo saas inuu magac dhabo waayo asagana xilka waa sii haynaya ilaa iyo uu ka yimaado madaxweyne ka bedelo maadaama aan la magac dhabin oo la yidhi hay-ado kale hay-adahaas kale waxay noqon karaan garsoorka waxay noqon karaan baarlamaanka laftiisa waxay noqon karaan xukuumadda hay-adaha ma caddo lama caddaynin marka qaanuunkan haddaa specific laga dhigin waa laga fahmayaa iyo asagaa laga waday iyo hay-adaha dastuurigu ku jiraa qaanuunka kuma shaqeeyo taas nafteeda nafta laga raadinayana meel looga heli karo runtii ma jirto marka madaxweynaha wuxuu ku fashilmay in uu doorasho qabto xilligiisii ama uu political agreement heshiis siyaasadeed oo raali looga iyo talada kusii joogo oo doorashada kusii waa sidii hore u dhici jirtay labadiina ma hayo madaxweynayaashii asaga ka horreeyey ma aysan ku qabin doorashada xilligooda sax waaye laakiin waxay sakuurgareeyeen ama gacanta ku dhigeen heshiis siyaasadeed oo loo ogolaada xafiiska inay sii joogaan oo technical extensiona yimid asaga tii wuu ku fashilmay asagaa dhuusa mareeb ka tegey
asagoo samay kara arrintaas iyada ah tiina ma uusan samaynin marka waxaan u hayna male qiil meel kastoo minhaajka aan qiil uga raadinay adigii qiil waa loo waayo waana mahadsan tahay waxaa kaloo su-aasha kaloo khayre iyo aniga ku saabsan dabcan saa la socotaan reer wasaarihii hore xasan cali khayre xaafaddiida igu yimid cudurdaarow oo runtii isisiiye aan u haysta aniga inuu geesinimo yahay waa inta laga leeyahay farmaajo iyo taliskiisa runtii nabad sugidda oo involved ku ahaasaan aaminsanna annaga xogta aan hayno inay cudurdaarkaas bixiyaan qofka ee ugu qorantahay codkaas ka xiran qofka xagga sare saaran ee ugu qorantahay codkaas ka xiran cudurdaar uu bixiyey oon ka aqbalnay runtii oo soo jeediyey wuxuuna ii sheegay in arrimahaas oo si detail wuxuu igala hadlaysay u dhaceen iyo accountkiisa uu ii sheegay sida hadda meeshaan publica hadda inaan ku sheego laakiin maalin aan sheegi doono taariikhdan ay ku looto meel aan ku noodgalay doono kamida haddii ilaahay nafna u gaarsiiyo marka waxaan ka qancay arrintaas iyada ah hadda maxaa isku mid ku tihiin isku wax baan raadinaynaa wuxuu sheegay ra-iisul wasaarihii hore inuu doorasho laisku raacsan yahay xilligeeda ku dhacdo waxa uu kursigiisa ku waayay ay tahay annagana intii hadda isla raadinaynaa daad macnaheeda maaha inaan wax kas isku raacsannahay wax badanaan ku kala duwannahay laakiin dhammaanteen golaha midooda musharaxiintu waxay ka midaysan yihiin kow xasiloonida dalka in la ilaaliyo laba doorasho la isku raacsan yahay la qabto si natiijada loo wada aqbalo midda uu sheegay inuu kursigiisa kusoo waayana taas ay tahay taasaan hadda annaga aan ka wada shaqaynaa dabcan waayo aragnimadiisa iyo wixii uu ka dhaxlay iyo siday tahay aniga maaha ninkii judgmentigeeda ama samay lahaa taas idinkaa iskale waa maasintii ayaan soo dhowow walaal ayaan soo dhowow ayaan haddii aan lahaynin cabdiqaadir aan u gudubno cabdiqaadir soo maasanta walaal waa dhowahay dhammaantiin waa salaamayaa ugu horeeya hogaamiye cabdiraxmaan abshakuur iyo ahna murashax madaxweyne iyo geese iyo amey aad baan idinka macelinayaa markaan u gudbo su-aalahayga waxaan weydiinayaa musharaxa laba su-aalood cabdiraxmaan abshakuur murashaxiin baa tihiin kodlad isku xiran baa tihiin ilaa iyo hal sano waad hadlayseen waraaqaad soo saarayseen maalin kasta ilaa markii u dambeysay aad mudaharaad iclaamiseen oo ay idinka diideen tiimka farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha ay diideen inaad qabataan banaanbax ilaa markii u dambeysay heshiis laydinla galay oo la diiday heshiiska marka xataa laydinla galay laydinka joojiyey oo si kasta ha noqoto laydinka joojiyey dadkii aad soo saari weydeen soo halkaa ma moodaan in bulshadii iyo dadkii reer muqdisho oo aan oran karo dadkii aad ka dhalateen weye in aad hanan weydeen oy cududooda intusi waayen oo dadka laydinkaga adkaaday taa waa midda labaad ee bulshada soomaaliyeed waxay idinku eedaysaa qorigii ab ee tanka ahaa ee lagu tuuray airboortka in ay ka dameeyeen murashaxiintu siiba tiimkiinii midooda musharaxiinta arrintaa meel aad ku beeniseen ma maqal dad badan baa idinku eedeeyey sida iyaga qolada kaloo tiimkan farmaajo iyo iyagana loo eedeynayo baa idinkana halkaa laydinku eedeeyey caawa marka bal bulshada reer muqdisho iyo dadka soomaaliyeed maxaa caddayn ah ood u sheegaysaa in laydinkaga adkaaday dadkiinii aad ka dhalateen oo intaad u shaqaynayseen siyaasadoodii waxa sababay in laydinka adkaado iyo qorigaas laleeyahay waxaa lagu riday airboortka oo waxaa ka dameeya murashaxiinta oo khalkhal gelinaya waa ka baxan labada su-aalood baan qaba dictora gabadh inantay ugu qoran taha walaalay kusoo dhawo labada su-aalood isku maraan qaadanay simis dad badan inay gacanta soo taagayaan haddana markii su-aasha la siiyay in hadlaynin axmed kusoo dhawo ame waa mahadsan tahay guddoomiyahan uga salaamay xasan anaga aad u mahadsan tahay saddex su-aalood aan qabaa waxaan ka bilaabayaa guddoomiyaha su'aalaha waxaan soo jeedin lahaa su'aalaha hal inaysan ka badanin fursadaha waa yar yihiin dadku aad u badan yahay waa isku daraa ilaa qofaa gacanta ku taagan tahay qof walba hal su'aal fadlan qof walba hal su'aal axmed hal su'aal fadlan okay hay cabdiraxmaan chairman waxaan ku weydiiyo xilal badan oo soo qabatay dowladii hore Soomaaliya waxa ahayd minister of planning wax tangible ah oo intii sano aaminsha joogtay oo wasaaraddaas iyo Soomaaliya u qabatay ina noo sharaxdid talabaad haddaan ku daro waxa waaye Somaliland waxay 30 sano ay go'an yihiin hadda tomorrow madaxweyne lagu doorto Somaliland si ula dhaqmi lahayd
وما سنتها شعيب عن قد بينهم لنا عمي yes yes قفك أي شيء بقرنتها شيء جوجو أنا كده أوكي كسع هذا بكسع السلام عليكم دمانتينا gudahaan ummadda Soomaaliyeed marka koowaad waxaan salaamayaa hogaamiyaha xisbiga wadajir mudan Cabdiraxmaan Shakuur runtii waxaan rabay inaan weydiiyo laba su'aalood oo kaliya idinana soo koobo runtii waxaan kamid ahay dhalinyarada hadda waxa weeyaan 30 sano u buuxsamay aan weligoodna arkin Soomaaliya kuna han weyn inay maalin oo dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo oo ay arkaan hadda wadamo kala aan waqtiga wanaagsan ugu haysano dib ugu qaadano runtii maalmahan dambe waxaan la soconaa qaabka u socoto doorashada iyo istijiyashada ka dhaxaysa dawladda iyo maamul goboleedada haddii aan nahay marka dhalinyarada qurbaha waxaan kulli qof kastaba wuxuu ka rajo dhigayaa maalinba maalinta ka dambaysa inuu dalkii dib u soo kaco ma laga yaabaa in golaha midowga musharaxiinta in ay hal mar inay inta ayagu iska dhigaan bal dhinaca siyaasadda in intii dalka loo soo jeesado bal marka koowaad inay ayaga naftirkoodu ay gogol u dhigaan maamul goboleedada iyo dawladda iyo mucaaradka naftirkooda ay dhahaan dalkan waan wada leenahay qofna gooni uma lahane si gooni ah bal ma uga wada hadalnaayo dalkan dib ma u dhisanayo ummadan iyo dalkan kala burbursan 30 sano yani wax sahlan maaha ummad 30 sano burbursan oo aan system iyo institution iyo dawlad iyo kala dambeyn iyo ciidan dhisan oo iyo dawlad dhammaystiran aan lahayn runtii wax sahlan maahan midda koobaad waa midaas midda labaad waxay tahay شعيب تعال ku ekay waayahay waa mahadsantiin aad iyo aad idin salaamay dhamaantiin عمي waxaan jeclaan lahaa inaan siino saddexda su'aal Cabdiqaadir Axmed iyo Shayb kadibna aan u soo gudubno saddexda kale ku xigta si su'aalaha aysan laftooda noogada loo xasuusnaado oo noodku noogu jira marka aan ku soo dhaweeyo hogaamiyaha Cabdiraxmaan Shakuur بسم الله الرحمن الرحيم وما سؤال ugu horeysa Cabdiqaadir weydiiyay waa hadalnay sax waaye because anaga waxaan aaminsanahay hadalka in lagu wada hadlaba doodayda iyo hadalkayga bilaawgiisii ku jirta anaga garnaqsiyan aaminsanahay doodan aaminsanahay waraaqa soo saarteen waraaqaan aaminsanahay in lagu wada hadlo waa soo sheegay xilligii qoragii gacanta lagu hadla anaga ma joogno laakiin rejiimka xilligiisa dhamaaday isaga optionkaas qaatay ama khiyaarkaas qaatay oo qoriga soo qaatay anaga waxaan rabnaa in la wada hadlo qoraal lagu wada hadlo idaacadda laga wada hadlo la dudo la garnaqsado saasaan u baahannahay anaga ma warrabnaba mudaharaadku wuxuu ka mid yahay wax lagu cabiro dadka reer muqdisho inayna ogolyihiin inaysan ogoleen wax la ogaa lahaa markii mudaharaadka la ogolaado dawladdu ama rejiimka hadda xilligiisii dhamaaday madaxweynihii hore uu hogaaminayay jid kasta oo magaalada soo dhex maraa oo way xiraan maalintii mudaharaad la sheego hadday marka kalsooni qabaan waxay ahaa lahayd oo saas sheegtay adiga doodaada aan raaco oo shacabka muqdisho jooga isana taageersanayn inayna tijaabiyaan very simple ay dhahaan waddooyinka ha loo furo xaggee u socdaan jirgida hasoon ahlan wa sahlan dadka isku keena meesha rabtiin mara aan aragna sabirtiin intay la eg tahay sidaa mudaharaadka waxa loo samaynayo mudaharaadkana waan sheegnay midkan annaga wacnay waa mudaharaad ay waceen dadka siyaasiyiinta ay waceen waay mudaharaad waxaa jiro oo dadku ayaga ay qabsadaan hadda ka hor magaalada waa ka dhacay qolada bajaajleyda dhib iyo culays aragtay mudaharaad ay sameeyeen ayagii way wada hadleen dawladda ka maqnaaya loo yeelay qaar kamida kulli maaha way dhacday mudaharaadii marka waa la sameeyaa dad shacaba mudaharaado oo la barakicinayo oo meel laga barakicinayo yaa mudaharaada waxa ugu dambeeyay kuwo meelo dhismayaal laga bixinayo maalin dhexdaas marka dadku laakiin mudaharaadka annaga aan wacnay oo shacabka isku soo baxan niri Cabdiqaadirow haddii aanan dadkii muqdisho haynin ka la furo markaasaa la ogaa doonaa taa sheegtoo tiri biiteen alboor ku turteen suuragal ma aha waxaa maqli jiray hadal soomaaliyeed oo dhaha carab intay ku nabtay nebiga kaaga hormartaa annaga dhinacaan u jeedna markii la fiiriyo wejigeena wuxuu saarnaa dhinaca airportka ama garoonka diyaaradaha wuu ka soo jeeday lambar 4 u jeeday qofkii muqdisho yaqaana marka ama si kale haddii loo dhigo wuxuu ka soo jeeday dhinaca bari galbeedkaan u jeednay ama koonfuraan ka soo jeedna waqooyiaan u jeedna wejigeena haddii la yidhahdo sida saxda ah inkastoo terminal term oo jiro oo waqooyi koonfur xamar si kale u qeybi laakiin sida saxda waxay tahay annaga dhabarkeena koonfur u xigay wejigeennana waqooyi u xigay airportka ama garoonka diyaaradaha marka annaga koonfur naga xigay suuragal maaha marka ciidankii dhinaca airportka xabadda u ridaayay
inay ku ridaan ka sii jeeday inay xabad dhinac airport ku soo ridaan wax suuragala maaha weliba waxaan ii xaqiijinayaa markii dambena ciidana dhinac airportka inta yimid oo gadaasha dhabarka annaga naga soo xabadeeyey oo aniga iga hadlaya gaarigayga xabad ay ku dhacday dhaawiciisa ilaa hadda uu ku yaalaa marka taas waa iska sheeka rakiisa qoryahaas la sheegayana bitaanka a sheegaysidba annaga maba haysanaba cidda haysata in la weydiiyo u baahan tahay waxaa kuu soo haray axmed xilligii aan wasaaradda ahay 2010 ahayd in lasoo dhaafaan u malaynayaa xilli kumeel gaar ah oo transition ah oo aan la istiragelayno oo shabaab magaalada wada haysto oo xaalad amni darro badan ay jirto oo budgetka dowladda dhanba soo galaaba oo wasaaraddeeda budgetkeeda dhan haddaan ku xasuusay 12 kun oo asaga dhanba bishii marka wasaaradda budgetkeeda 12 kun yihiin dollar bishii oo laga yaabo in lagu bixiyo korontadii iyo kirada xafiiska iyo biyaha hadday dhahdo waxaan qabtay haddaan ku dhahana beenaan kuu sheegay oo wax weynaan ka qabtay kuma lihi laakiin markay ugu yidhaahdo strategic plan oo 5 sano ah un baan samaynay wixii kale oo service lagu qaban lahaa oo dadka loogu adeegi lahaana hadda waxay ku xiran yihiin budgetkana revenue ama cashuuro ka imaadaa ilaa haddeertaan oo xilligaa 10 sano laga joogo yaa dowladda dhan budgetkeeda weli wasaaradihii budgetkooda 12 kun oo maraya weli running costigooda iska dhaaf budget dad wax ugu qabtaana lama helin marka ma u malaynayo inaan ku dhaho guulo waaweyn aan sheegtay Somaliland hadda ay weydiisay Somaliland dhowr jeer horaan sharaxay meelo kala duwan aan ku sharaxay oo u baahan si faahfaahsan in loo sharaxo waxay u baahan tahay arrinta Somaliland si dhab ah ama waa xaajo dhab laga galo sixir Cabdiraxmaan oo gacanta ku hayo furi kara kaligiis maaha waxay u baahan tahay dadka Soomaaliyeed ee dowladda federaalka ku wada jira deertaan goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka hoggaankeeda oo isku darsan iyo bulshada qaybaheeda kale xisbiyada mucaaradka iyo bulshada rayidka inay ayaga horta marka hore dood ka yeeshaan Somaliland see loola macaamulayo dooddaas marka Somaliland lagula macaamulo oo la yidhaahdo haddii Somaliland ay midnimadii ku soo noqonaysana maxaan ku qancin karnaa walaalaheen haddii aysan ogolayn midnimadiina maxaan ku qanci karnaa see u qancinaa inay midnimadu imaadaan wax la isla og yahay oo la isla ogol yahay oo strategic framework ah oo Somaliland lagu wada hadlo inta hadda dowladda federaalka ku jirta inay ku heshiisay u baahan tahay laakiin waxa dhaca waxa waaye madaxweyne kasta markuu asaga talada yimaado guddiga iska magacaabaa guddiga Jabuuti ama Ankara iska tagaan wax weyn oo horumar ma sameeyeen sababtoo ah debate iyo dood sax ah kama dhex dhicin dowladda federaalka dhexdeeda ama dowladaha xubnaha ka ah ama xoogga siyaasadeed ku dhex jira ayaga si dhaba inta ugu wada hadlaan arrinta Somaliland waa wax reality oo jire see ula macaamilna seen u wajahnaa maxaan ka tagi karnaa maxaan ka tagi karin maxaan ka tanaasuli karnaa maxay ayaga nooga tanaasuli karaan inta la qiimeeyo wax la isku og yahay marka Somaliland lagula hadlay u baahan tahay waxaasna hadda Cabdiraxmaan ana haay haddaan ku dhaho runku ma sheegin Shucayb golaha midowga ma gobol dhigo golaha midowga wuxuu ku dadaalay inuu wada kasta oo lagu heshii karo rejiimka hadda xilligiisa dhamaaday oo raadiyo oo la isugu imaan karo meel kasta u tagay wada kasta u istaagay meel kasta laga waco yeelay awoodda marka hadda taa in dadka la isugu yeero anaga gacanteena kuma jirto anaga opposition anaga banaanka ka taaganahay awoodda iyo xukunka laakiin waxaan leenahay soo jeedin dadaal isku day team naga mid ah garaw tagay wada hadal ka soo dhacay haddeertaan ra'iisul wasaarihii xilgaarsiinta la hadalnay dowlad goboleedaha la hadalnaa maalin kasta maalin dhexdaas madaxweynaha galmudug anaga wada hadlaynay meel anaga aan ku joojinay ma jirtaba in la wada hadlo oo dad wada hadalka ogol oo diyaar u ah aan ma gobol dhigtiin anaga hadda mandate-kaas iyo awooddaas aan gobol ku dhigno oo dadka ku hoosta garay karno ayna isugu keen imaanayaan maadaama dowladdii federaalka xilligeedii dhamaaday oo hadda ayada ku magacaabantaday dalka ay diidan tahay ay nabadii diidan tahay oo ay wada hadalkii diidan tahay si aan anaga ayaga u qasbi karno wada hadal ma jirto dadka marka in loo caqli celiyo u baahan waa ayaga laakiin anaga wax kasta iyo wada hadal kasta diyaar aan u nahay waa maasantiin Cabdiqaadir Fadhow waan salaamay dhammaan saaxiibada xasan cali geesi iyo aamey oo si qurux badan halka daadinaya iyo kuwa kale ee aan mataqaanaa ee daawanaya waxaan leeyahay horta dhammaantiin waa maasantihiin si gaar waxaan u salaamayaa murashax Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaan rabaa su'aal siyaasadda ka baxsan inaan weydiiyo inkastoo siyaasadda laftirkeeda tahay midowga murashaxiinta oo isagu qayb ka yahay waxay in dhawaalaba qorsheynayeen banaanbax ballaaran oo laga soo horjeedo rejiimka hadda jira mudane murashax waxaan ku weydiin lahaa ama jeclaysta inaan ku weydiiyo oo naga jaahil bixiso aniga iyo shacabka hadda ku daawanaya ama ku dhageysanaya waxaa jira cudur pandemic ah oo dunidii Afrika gashay oo lockdown adduunyada uu galay oo qof aan qof salaamo aysan jirin maanta
in la kala fogaadana xal loo arkay marka Soomaaliya oo haysan dawlad awood leh tagto cudurkaas iyo sidoo kale shacab baraarugsaneyn inaad isugu yartaan barxad weyn kumanaan kuna laga yaabo inay ka qayb qaataan soo lagama yaabo xanuunkaas dadka u baaba'ayo inay kala weyn tahay sida farmaajo ku isugu banayn lahaa raxmo ku soco boos aadoo maasantaa وما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنا أخيرت والسلام يا مدن عبد الرحمن عبد الشكور يا حسن يا عمي لبس سؤال قابنا قبا وأنا سوكو بيهدو إلهي يرادو مدحو كساب سنتها حسبيهان مدن عبد الرحمن عبد الشكور هذا كور وحنا لو ذاتي بيشي جانوري إن سلوغان هاي نقم الكيلة مسير كيس مال قشدة وحسبيغا لوغو ديقاي شعبكو سوماليدنا وكربي قعن دقالو marka arimahaas intee marayaan waa arintii su'aashii koowaad talabaad rabina ku weydiiyay waxay tahay maxaa ka tirsan tahay golaha musharaxiinta suxilka Soomaaliya u tartamayso sidoo kale oo golaha mucaaradkana waa ku jirtaa qodobka 9aad ee dastuurka Soomaaliya wuxuu qorayaa xilkii awoodaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xarafka ca ama si wuxuu sheegayaa wuxuu magacaabaa taliyaasha ciidamada heer federaal iyo xilka qaadistooda hadii golaha wasiirada soo jeediyaan marka mudan Cabdiraxmaan Shakuur golaha musharaxiinta mucaaradka mar walba waxay codsadaan oo mowqifkooda aan ka aragnay inay rabaan taliyaashii dhibka geystay 19 February in xilka qaadis lagu sameeyo xilka qaadistaas hadii madaxweynaha waqtigiisa dhacayaa sameeynayo waa su'aasha taas aan rabina ku weydiiyay aad iyo aad u maasantiin assalaamu calaykum ugu qoran tahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد السلام سلوى خيارة مودريتريسك والسلام يا صاحبي هجامي عبد الرحمن عبد الشكور وأصلا صاحبك سنة آدم السلام يا إن هدان سؤالي قديم ونقضه إن أرتو حن شاء الله إن نحصه قضبك وآتك وشرحي ahaa in baarlamaanka labadiisa aqal qodobkii ku sharciyeeyeen oo extensionka loo akhrisanayay qodobka labaad xataa xusimayo in awoodahoodii oo u dhan qodobka kale oo baarlamaanka waxa la yiri awoodihiisa dastuuriga ah oo buuxa waxa kaloo la xusay baarlamaanka 10aad iyo 11aad oo ku tusaysa inay marxalad kaliya ku xiran tahay marka arrintaas muhiim waaye inay xataa taas aysan xusin kasoo inta uu hogaamiyaha sharxay talabaad in aad baan waxaan ugu faraxsanahay kuna amaanaya murashaxa in ugu yaraan aan aragnay in siyaasi uu diyaar u yahay inuu ka jawaabo su'aalaha oo dhan iyadoo aan camiraad iyo waxba aysan ahayn oo aysan campaign ahayn in uu qaato culayska oo dhan iyadana waa arrin mudan in hoosta laga xariiqo su'aasha koowaad waxa weeye mudane in safiiradda Ingiriiska ayaa maalin dhaweyd waxa ay waraaqaheedii u gudbisay madaxweynaha xilligiisu dhamaaday ayadoo og in xilligan oo kale 4 sano ka hor markii ay Harriet safiiradii ka horeysay ee joogtay la soo magacaabay kii xigay uu David ayaa la oran jiray Connor waxa uu go'aansaday in uu sugo ilaa ay madaxweyne laga dooranayo isagoo ogaa waliba inaysan wax khilaaf siyaasadeed ah aysan stakeholderska aysan ka dhaxayn maanta ayadoo ay ogtahay safiiraddu ayay go'aansatay in ay dhiibto taasoo macnaheedu tahay kow in ay legitimacy siisay madaxweynaha xilligiisa joogo iyadoo waliba beesha caalamka loo ogyahay saameynta ay ku leedahay siyaasadda caalamka iyo heerka tan labaadna waxa ay undermine garaysay awoodda dadka Soomaaliyeed ee mucaaradka ah ee oppositionka ah ee ka soo jeeda ama murashaxiinta ah ayay dhinac iska dhigtay si arrintaas u aragtaa waa qodobka aan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo waana mahadsantahay marka waxaan qaadanaynaa Cabdulqaadir su'aashiisii iyo Salwa su'aashiisii iyo Raxma su'aasheedii soo dhawaad Cabdiraxmaan waa mahadsantii saddex su'aal aad runtii muhiim ah waaye Cabdulqaadir aan ku bilaabayaa runtii dee waxaa laga yaabaa dad badan oo diaspora in aysan dalka joogin arrinta COVID-19 run waa arrin xanuun badan waaye oo dhib badan annaga sababaha waaba qayb ka mid ah inkastoo mudaharaadkii aan ku ballannay heshiiska aan kula galnay si aad la socotaan xukuumadda xilgaarsiinta inay oggolaato inaan dhiganno ayadana ay joojisay runtii nagama maqnayn annaga dareenka ah inaan sababtaas u joojino annaga nafteenna oo aan ka walwalno laakiin markasta waxaan isku dayaynay
in la raaco instructionka ama tacliimaadka ama aan isku dayno inaan dadka ku maaragtay wacyi gelino ayagoo mudaaharaadaya haddana in ay raacaan instructionkii ama wixii lagu talagalay protocolskii lagu talagalay waxaan diyaarinay mass face mask afxilkii aan diyaarinay oo kumanaankuna waxaan diyaarinay kii gacmaha la marsanayay waxaan diyaarinay inay distancega dadka isku jirayaan inay markasta dadka xasuusiyaan waxaan diyaarinay ambalaasyo iyo dhaqaatiir waxaan diyaarinay in maaragtay dadku wacyiga samayno dood marka magaalada waxaa ka jirta xataa annaga kaliyan maaha bahda waxbarashada iyo dadka kale oo laga xiray dowladda ay ka xirtay iskuullada ayaa waxay ku doodayaan iskooladii waa xirteen ardaydiina magaalada kusii dayseen marka maqaayadihii iyo masaajidadii iyo suuqyadii waa la isdhex yaacayaa oo wax ka jiro oo iltisaam sharci ah ama wax oo la raacaya ma jiro marka soo kama habboonayn in annaga iskoolada joogo oo dhahayna markay soo galaan face maskiga xiro gacmaha dhaqo kala fogaada annagaaba dadkii ku wacyigelinayna inuu cudurkii ay ka fogaadaan idinkii ardaydiina waa naga fasaxdeen suuqana waa kusii dayseen annaga marka waxaa isdhehaynay mudaaharaadka waxaa loo isticmaali karaa wacyigelin ku saabsan cudurka haddii la arko dadkii waa practicalba dadkii oo kala fog afkii u xiran yahay gacmihii alkooladii ku dhaqanaya jeermiska dilaysay annaga waxaan u diyaargaroonay qaab wacyigelin ah oo caafimaadka qayb ka ah runtii aan u baraarujinno xukuumadda xilgaarsiintana waan ka wada hadalnay wax dhiba ay ku qabeenay noo sheegeenna mid saas daraaddeed marka doodaas in la joogo oo dadka hadda soo mudaaharaadtegaya oo maqaayadii tegaya oo ay tagan yihiin oona wacyigelin iyo wax u samaysa aysan jirin amow doodaas waana ka saxsanaa karaa laakiin maadaama wax kasta oo nolosha magaalada muqdisho meel kasta ay furan tahay oo masaajidkii istawuda ay socoto oo laisgarbinayo garabka la isku hayo suuqii la wada aadayo maqaayadii la wada fadhiyo maaragtay noloshii basaskii la wada raacayo wax walba ay dadkii isku dhex jiraan ayagoonan wixii aanan raacaynin halkaas meelaa wax ku waani karno annagana holagu muuqdo runtii raxma su-aasheeda masiirkaa maalgasho sax waaye kambeynkaas waa loo injigaraynay runtii falcelin aad u wanaagsanaa ka timid markas annaga waxaan ugu talagalnay aan dadka warbixin ka siino laakiin mashaqo kaloo siyaasadeed waxaan islahayn kambeynaa la galay oo loo doorashaa la aaday halkaasaa loo socdaa laakiin waxaa timidba in guryihii layskugu soo dhaco jidadkii laysku xabadeeyo hoteelada laysaga degto marka arrintaas si ku meel gaar ah runtii ayay u saamaysay dadkii naftooda way u jeedaan kambeyn doorasho furan oo la taageero inuusan jirin dadku waa garashadaas way leeyihiin runtii annagana waaba ka mashquulnay ololihiisii weytaankiisii waxaa naga mashquuliyey in horta doorashadii u ciyaari lahay noqdo arrinta taliyaasha sax waaye madaxweynaha xilka qaada hadday xukuumad soo jeediso maadaama xukuumad xilgaarsiin ay tahay annaga waxaan rabnaa ayaga inay soo jeediso markaasna ayaga ay iscasilaan taan raadinaya taas waaye madaxweynaha xilkiisa waa dhammaaday xil ma qaadi karo waa sax laakiin xukuumadda inay soo jeediso kabacdi taliyaasha inay iscasilaan inuu heshiiska qayb ka noqdo waaye waxaan rabnaa annaga runtii waana ka xunnahay inay qayb ka noqdaan saddexda taliye midka militariga midka nabadsugiidda haysta iyo midka boliiska haystaba ayaa qayb ka ahaa laba ka midana si toos ay ugu jireen dagaalka isaga xukumo marka waa inuu sheegaa ciidankaas isaga inay ka amar qaadanaynin cidday ka amar qaadanaysa ilaa uu ka sheegan annaga waxaan u haysanaa inuu asaga qayb ka yahay su-aasha uu weydiiyey salwa su-aashaas galabta fiidkii ayay safiiradda ingiriiska midowga musharaxiinta ay kulan ka codsatay runtii dood dheer kabacdi waa laga yeelay wayna nala hadashay su-aashaasna waan hor dhignay runtii sababta ay saas u yeeshay waxay ku justify garaysay ama ay uga dhigatay marsiyo waxay ahayd ay noo sheegtay inay u baahan tahay dalka inay ka shaqayso oo annaga la kulankeena ay kow ka tahay oo ay noo sheegtay axmed madoobe madaxweynaha gobolka jubbaland ay la kulantay shalay kulamadii iyo shaqadiisay u wado waxaan aqoonsannaha waxay tiri waa qaran soomaaliyeed xukuumad iyo ashkaas ama nidaam markaas jiro ma aha saas daraaddeedaan ku qasbanaanay inaan warqadaha dhiibno markii aan keennay xujada aad keentay oo david concord ninkii lahayay ou sugana doodii ay sheegeen waxay ahayd baarlamaankaa lasoo doortay markaas waxaa dhigo keliya doorashada madaxweynaha laakiin haddeertaan doorasho lama hayo heshiiskeed lama hayo kow iyo labana ma joogto safiiraddan inay shaqaysay u baahan tahay
annagana waa galnay sax waaye dilemma ama xaraj qaanuuni ah iyo mid diblomaasiya iyo mid siyaasadeedan ku dhacnay markii aan miisaanina waxay tiri kaasaa noo soo baxay annagana runtii midowga wuxuu garowsaday arrintaas ayada ah inay arrin macquula tahay taas macnaheeda ma aha ina annaga aanan sheegaynin waxa la sameeyey inay sharci darro tahay si walaalayaal su'aasha toos u gal maxaa la habla badan markii la siiyo ma hadlayaan marka ruwayda ku soo aniga ka horeeyay ruwayda bilan ka horeyso bilan ku soco okay bilan ku soco wala ruwayda yar assalaamu calaykum dhammaantiin waan salaamay hogaamiye cabdiraxmaan cabdishakuur noo salaamay waxaan doonayay hogaamiyaha inaan weydiiyo dhacdadii 19 February hadaladiisa waxaa ka mid ahayd inuu yidhi inuu qayladaan qabiil samaystay ayaa ka mid ahayd uu raggii beeshiisa ku matalayay 4.5 sida allahumma salli calaa umar gudoomiye cumar fiilish ra'iisul wasaaraha iyo cumar guudlaaw raggaas inuu u yeedhay ayaa ku jirtay hadaladiisa sidoo kale waxaa ku jirtay inuu dhalinyaro ku lahaa gudoomiyuhu allahumma salli calaa maxamed inuu ku lahaa cashuurtiinii ayaa la cunaya hadalladaasi waa hadallo qabyaaladaysan bay ahayd maanta hadduu hogaamiye cabdiraxmaan cabdishakuur noqdo madaxweynaha Britole hadalkaasi suu Soomaaliya oo dhan u midaynaya see muqdisho ma deegaan ay beel kaliya leedahay baa mise waa caasimadda ummadda Soomaaliyeed ma see ayay u midayn kartaa ummadda waxaan doonay gudoomiyaha ku weydiiyo muqdisho ma caasimadda ummadda Soomaaliyeed baa mise waa deegaan ay beel kaliya leedahay markaad leedahay waxa la cunayaa cashuurteedii baa la cunayaa iyo hadallo saas oo kale markaad leedahay gudoomiyaashaas aan doonay inaad iga jawaabto waad mahadsantihiin ruwayda soo dhawaanaan waa mahadsantahay came iyo xasan iyo mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo dhammaantiin su-aal sidaas usii buuran ma wato su-aalaha aa watayna dadaa hore u weydiiyey mudanaha laakiin hadalkiisa midaa kala dhex baxaan wataa oo ah waxyaabaha maanta social mediaha ku arkayna iyo aaskii idin sheeg allah u naxariistee madaxweynihii hore waxaa dhacday madaxweynaha inuu yani uu ku dhacay bahal mistake ah oo ah inuusan dadka salaamin soo hadda mudanaha ka dhawaajinayo uuna yiri maxaa lahaa ha ka waaniyo dadka ha ka waaniyaan oo taliyaasha u ah waxaa rabaa mudanaha inaan weydiiyo wuxuu ka dhawaajiyey xadiis ahaa xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo uu yiri maxaa yiraahdaa walaalkaa u hiili laba mar hadduu saxan yahana u hiili hadduu qaldan yahana u hiili haddaba maxaa diiday heeliska uu hadda sheeg mudanaha sheegaya oo ahaa haddii walaalka uu qaldan yahay gacanta ka qabe u heeli waaba aragnaba qaladkii madaxweynaha maxaa diiday in musharaxiinta inta soo baxaan ee madaxweynihii dee meesha uga soo horeeyeen namaara laakiin inay inta soo baxaan ayaga salaamaan bal inuu diiday in kale markaas anaga aynu aragno shacaba kaamirada ay waxnoo tabiso taasi waa midda xigtana waxay tahay aan sii raacsado waxaa jirta in dalka uu ka jiro corona ba'an marka daysid ruwayda hal su'aal baan iswada siiyey marka dad halka su'aalan ku keenna walaashay adoo mahadsan walaal walaal cabdiftaax raalli noqo muddo dheer tahay inaad soo dhow waa mahadsan tahay camay waa u mahad celinayaa barnaamijkan qiimaha leh noo soo abaabulsheen adiga iyo xasan sidoo kale hogaamiye cabdiraxmaan cabdishakuur waa u mahad celinayaa aniga waxaa la yidhahaa Cabdifataax Maxamed Suule waxaana xogayaha guud ee urur siyaasadeedka mustaqbal oo ka mid ah 10 urur siyaasadeed Puntland ka jira intaas kadib waxaan rabaa
inaan su'aal intaanan gelin aan u sheego in Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo midowga murashaxiinta iyo madaxda dowladda intaba dadkii Soomaaliyeed hadda inay duruuf adag ku jiraan, abaar ku jiraan, ayax uu ku habsaday, xoolihii iyo shaqooyinkii iyo fursadihii COVID-19 uu ku habsaday, dadkii aad ay u dhibaataysan yihiin oo bulshadii Soomaaliyeed ay ku jirto marxaladii ugu adkeyd ay noloshooda soo maraan intii jireen baa lagu tilmaami karaa. haddana waxa weeye waxa adkaatay in heshiis la isugu yimaado siyaasadeed oo doorasho lagu aadayo. dowladdii waxay leedahay doorashaan rabnaa inaan qaban, adunkuna waxay leedahay doorashaan rabnaa in la qabto. maxaa marka hortaagan haddaaba labadiina dhinac isku hadaf tihiin in doorasho la qabto oo labadiinuba aad diyaar doorasho rabtaa in la aado, maxaa hortaagan inaad heshiisaan oo doorasho dadka ay xor oo xalaal ay dadku wada qaadan karaan aadaan? su-aashaas waxa uu kaloo rabaa inaan ku daro heshiiska hadda xamar la iskugu imaanayo, wadahadallada hadda xamar la iskugu imaanayo, ma waxaa jira qodobo horle oo soo kordhay qodobadii awal la isku hayay oo cusub oo sii kala fogeeyay wax, mise intii awal la isku hayay baa hadda wali la isku hayaa? labadaas su-aalood baan rabaa inaan ku weydiiyo. aad iyo aad baa u mahadsan tahay. waan bogaadinayaa fikirka aad qabtidoo ah in doodda ay noqoto mid fikri ah oo garnaqsi ah oo wada xaajood ah, qoriga iyo cunfigana meel la iska dhigay. arrinkaasna aad baan kugu bogaadinaya. aad baa u mahadsantihi. imaamka club house-ka Cismad Sheekh Yuusuf Cali Ciinte soo dhowo ninka dhulkan iska leh. waa mahadsantihiin. waxaan rabaa madaxweynaha waa salaama iyo xiriiriyaasha xasan cali geesi iyo camey. waxaan rabaa inaan madaxweynaha weydiiyo. marar fara badan waxaan arkay mudane madaxweyne adigoo farmaajo ku dhaliilay inuu la sheekaysto koox isaga u gaar ah oo u camirto. maalin dhaweyd waxaan daawanaya xaflad aad u qabateen ururka SYL. mid ka mid ah dhalinyaradii ka hadlaysa xafladaas xisbiga gaar ahaan garabka dhalinyarada waa xisbiga Wadajir, muddo 10 daqiiqo ayuu hadlayay. 9 daqiiqo ka mid ah adiga ayuu ku amaanay. waxaan fahmi waayay meesha ay isaga guntan yihiin arrintaas isku camiraadda ah ee aad ku diidan tahay farmaajo iyo midda wiilka adiga dhalinyarada ah kuugu camirahay. midda labaad, maalin dhaweyd banaanbaxayaasha markaad banaanbaxayseen waxaa garabka kugu hayay wasiirkii hore ee amniga Islaw. dhowr jeer oo aan daawado adigoo ka hadlaya arrinta weerarka xarunta xisbiga Wadajir waxaad sheegtay inuu isagu ku jiro waa wasiirkii hore ee amniga Islaw. ma arag meel aad isku cabseen ama aad isku saamaxdeen ama meel aad ma arag si publica ku sheegtay in uu wasiirka cafis kaga dalbaday xisbiga Wadajir weerarka lagu soo qaaday. ma la isdhihi karaa weerarka xarunta xisbiga waxay kuu tahay doon aad isaga daanshayso oo maslaxadaada kaliya aad ay u cugan tahay? waa ka baxay. waa mahadsan tahay. afartaa su-aalood qaadanayna waqtigana aad u noo hayaa ogaada. marka camey su-aal waxaa jirtay ay weydiisay hogaamiyaha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Raxmo oo eedan laga tago ku saabsan taliyaasha ciidamada iyo bedelkooda uu ka jawaabay. aan ka socono markaa waa mahadsantihiin. bilan aan ku bilaabayaa 19 Febraayo qeyladaana sheegtay. waa loo fasira karaa, laakiin aniga waxaan sameeyey waxay statement aan ka dalbanayo mowqifkooda inay caddeeyaan. waxaa jiriyo dowlad goboleedyo aanan sheegin. waxaan aad ugu kalsoonaa inay mowqifkooda cadday doonaan, runtii wayna caddeeyeen. markaan leeyahay haddaad fahantay siyaasadda ama aad la socoto, waa inay ninka weerarka soo qaaday ama xabadaha soo riday lagu tuhmayo kooxdaas aan sheegay inay asaga ay gar u yihiin. taas waa midda aan ulajeedkeedu ahaa, ay u caddeeyaan dadka mowqifkooda, aysan ka gabanin oo aysan ka dhuumanin. runtiina waa tii keentay markii aan ku shirnay xukuumadda xilgaarsiinta iyo labada madaxweyne dowlad goboleed oo magacaabay iyo guddoomiyaha gobolka Banaadirba in la soo jeediyo cudurdaarkii markaasuu yimid oo magaca lagu soo jeediyey ee xukuumadda. dhalinyaraa tiri canshuurtiina la cunaa, meelaan ku iri ma jirto. mana fiicina qofku wuxuusan dhihin runtii in loo saariyo. laakiin hadda midaan dhahayaa jirtaba, rejiimka oo hogaamiyo madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waqtigiisii waa dhamay, dadkana xaq uguma leh inuu canshuur ka qaato. taasaaba hadda aan la taaganahayba.
ama ha joogaan muqdisho ama meel kale ha joogaan dal ka mid ah ruwayda maxaa diiday in aad asaga madaxweynaha aad salaantaan u noqdaan runtii annaga meel kalean ku jirnay ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka xilgaarsiinta ah iyo guddoomiyaha aqalka sare xilgaarsiinta ah intaba ayaga noo imaadeen goorta oo madaxweynihii hore soo gala annaga maan ogeyn cidna wargelisana ma jirin runtii fursad lagu salaami kara xataana ma bixinba isagoo orday oo soo galay janaasadii la dukaday isagoo orday on hore gaariga oo ka fuulay marka meel aan lagu maba jirinba oo fursaddaas lagu heli karo laakiin waa ku celinayaa mar kale in iyadoo tacsi la joogo oo janaase la joogo inuu qofka qalbigiisa jilci waayo oo dareen noocaas yeelo waayo waxay ku tusinaysaa qofkaas meesha uu joogo iyo mustawihiisa intuu leeyahay inaad iska badan u dhaafo ma rabo cabdifataax sugulle run waaye dalka xaala adoo ku jira waa kugu raacsanahay laakiin waxaa jira wax la yidhahdo cause and consequence sabab wax sababa iyo wax sababta keena quraankeena markuu ka hadlayna waa tuu leeyahay atbaca kulli shayin sababan wax kasta sababay leeyihin soomaaliya annaga waxaan aaminsannahay 30 sano waxa ka dhacaya ee hadda midda ugu dambaysa aa sheegtay waxa keenaya waxay tahayba inay siyaasadu deganayn ay salka dhulka ku haynin oo dowladnimadii ay dhisnayn xataa al-shabaab al-qaacida argagixiso cudur biyo la'aan abaar biyo baxo waxaa asaas u ah dowladdii waxaas qaba laheedaan jirin statekiyaan dhisnayn institutionkiyaan taagnayn dadkii marka lama sii karo service ama adeeg lama sii karo kala dambayntii sharcigii lama soo celi karo waxa asaas ku ah waxay tahay inay dowladnimadii jirin dowladnimadiina waxay la maqanta inay heshiis leeyahayn heshiiskana waxaa hortaagan in siyaasadda laga wada hadlo oo siyaasad salka loo dhigo ayay qayb ka tahay marka arrinta doorashadu iyo siyaasaddu taasay qayb ka tahay waa jeclaa lahayn inay labadii maamul ee ka horreeyay hadda madaxweynaha hadda xilkiisa dhammaaday waa dood adagaa laga gaaray doorashooyinka laakiin saan oo kale ma gaarin waxaana xasuusinayaa saddexda madaxweyne ee hore markay isgarab taagnaayeen 2008 February waa la socotaan warbaahinta Afrika iyo Carabta dhan waxaa lagu qorayay tallaabsiga horumarka Soomaaliya ee dhinaca dimuqraadiyadda ay ka samaysay runtii maantana waxaan taaganahay adduunka dhan isku raacsan yahay halista Soomaaliya ka jirta intay la eg tahay maxaa keenay maxaa sababay waxaa sababay rejiimka hadda ilkiisa dhamaaday cid kale ma sabab saa diidan su-aasha ay weydiisay yaa diidan doorashada waxaa hortaagan oo diidan dowladdii loo xil saaray ama mandate-ka la siiyey inay doorashada qabto ayada qabala ayadaa diidan doorashada in la qabto waxaan inkugu caddaynayaa si simple aan kugu caddaynayaa madaxweynaha hadda xilkiisa dhammaad hadduu doorasho rabo horta kow dowlad goboleeda lama dagaaleen qof doorasho raba oo cod raba oo Puntland ilaa Jubbaland ilaa South West ilaa Koonfur Galbeed cod ka raba lama dirireenba horta hal xataa kimid dowlad goboleed lama dirireen dadkii uu rabay inay doorashada la galane habeen saq dhaxaa intuu ku soo duulo guryaha uguma dhace oo xabad iyo weerar kuma galeen dad taas waxay tusaale u tahay war qofkan doorasho xaggeed ma u socdaba maalin qof iyo codaan qabanayna ku leeyihiin waa ogtahay waxaan iska soo marnay ma soconayso inay soconayn qof iyo cod qof walba waa ogeed oo caqli leh oo wax garta extension iyo muddokorasi isku dareen weli kama quusanin doorashadii kale hor taagan yihiin oo madaxweynaha waxaa la socotaa dhuusamareeb heshiiskii la gaari lahaa lagu soo kala tegey yaa garbahaare magacaabaya guddoomiyaheeda lagu soo kala dhaqaaqay waa ogtihiin intii lagu soo kala dhaqaaqo baydhabo hadda ku yaalay sida naloo sheegay annaga ma arag haddana 19 Febraayo su-aasha kale weydiiso wax cusub ma soo kordhay ha 19 Febraayo timid oo ah in ciidankii awooddii dowladda loo isticmaalayo marka doorashada annaga aan rabno si kooban haddaan kuu sheego maadaama Puntland aad xisbi siyaasadeed aad madax ka tahay Puntland ka timid annaga doorashada Mareykanka iyo midda Ingiriiska ma codsanayne midii Puntland ka dhacdaa rabnaa madaxweynaha tii baydhabo ka dhacdo rabaa oo qof musharaxa oo tartamaya la xiraayo kaligiisna codka loo tirinayo rabaa annaga tii Puntland ka dhacday oo hadda ma dhahayno Cabdiweli Gaas oo madaxweyne ka ahaa manipulation ma samaynin odayaasha iyo guddiga doorashada iyo gacmaha ma gashanin ma jirto uu gashtay laakiin wuxuu ogolaaday at least in si feera loola tartamo oo musharaxiinta kale ay si xor u tartamaan oo meeshay rabaan doorashada ay tagaan oo ciday rabaan ay la kulmaan
marka haddaad maadaama puntland ka timid tusaale fiican waaye waxaan rabnaa cabdifataaxu doorashadii walaalow puntland ka dhacdaan rabnaa madaxweynaha xilkiisa dhammaantii bay dhaba ka dhacduu rabaa idinkaa noo garqaadaya marka su-aasha ah heshiiskii xamar waxaa kusoo kordhay waa ka jawaab waxaa kusoo kordhay saddexdaas qodob electoral security in ammaanka doorashooyinka laga hadlo madaxweyne beebaha kuu horgoynaya oo habeenka doorashada subaxa doorashada aadaysa beeba ka hor dhigi kara annaga inaan la tartana diyaar uma nihin marka arrinta security waa in la iska warsadaa political spaceka oo si xor haddaan mudaaraadi karin saa doorasho u qaybgala haddaan dadka la kulmi karin hotel ku shiri karin haddaana safri karin haddaana meeshaa raba mari karin sidaan doorasho u qaybgelaya spaceka siyaasadeed waa qodobka labaad qodobka saddexaadna waxaa waaye mandateka madaxweynaha dhammaan in laga wada hadlo daas waa annaga oppositionka ay ku magacaabeen agreementigii 17 December waa raacsanahay September laakiin waxaan rabnaa plus in lagu daro pluskana waa saddexdaas qodob adiga waa lagu ammaanay aniga meel lagu ammaanayna ma xasuusto haddii qof i ammaanayna oo uu jirane sabab aan ku idhaahdo ammaan ama imaani kartid jooji aniga oo microphone inta usoo dhex galo idhaahdo qofkaas anuu i ammaanay hala joojiyo qofka markuu hadlaayo isagaa xor ah laakiin anigu waxaan jeclahay madaxda in la ammaano ma jecli ee waxaan jeclahay in la dhaliilo ama wax ay qabteen lagu ammaano la yidhahdo waxaasi horumar ka sameeyeen oo horumarkooda la appreciate gareeyo waxay ka gaabiyeen la sheego annaga dhaqanka aan rabno in la promote gareeyo kaas waaye wasiirka amniga meelaan ku iri qaybow ka ahaa maba jirtaba markii la weydiiyey waxaa iri wuxuu ka ogaa maba jirtaba aniga middaas sheegay waxay waxba ka ogeyn waana ninka keliya oo cudurdaar babliga sameeyey habeenkii aniga xabsiga layga soo daayey oo guddoomiyaha hore ee gobolka banaadir iyo imaamka beesha baduloodi dhaqanka iyo odayaasha kale dhaqanka aan habeenkii aan tegey wasiirka amniga waa joogay isagaa yiri ilmihiinoo gafaannahay anoo cudurdaarkaasuu sameeyey mar dambe dood kaloo timid aan ku iri asaga wuxuu ka ogaa male waan aaminsanahay wuxuu ka ogaa inaysan jirin cudurdaarna asaa ugu horreeyey meelaan ku irina maba jirtaba asaga qayb ka ah waa mahadsantiin waqtiga hadda wuxuu taagan yahay intii aan ku ballannay marka hogaami waxaan kaa codsanaynaa inaad wax in yar noogu dartid maxaa yeele culays badan ayaa jira 1252 qofood ma wada gaari karna laakiin waxaan isku dayaynaa dad ina gaan asxaabtayda khaaska ah nima wasiin kara su'aalo si idinka gooni nii soo xulay sababtoo waa inaa cadaalad ka ahda halkan oo maxaa ahayd siduu dalbada hogaamiyaha random in loo qaybiyo qofka gacantiisa usoo taagnaato waa inuu qaataa cabdicasiis golf oo wariye ahaan aan u siinaya caawa aniga aan saas usoo qaatay cabdicasiis soo dhowow deetana liibaan iyo cabdinaasir qaadanayna su'aalaha halkaasi ku dhan marka saas u og male maqlaa ku soco madaxweyne waa ku salaamay waxaan rabaa hal su'aal oo gaaban inaan ku weydiiyo oo ku saabsan ololahaaga 5 Janaayo 2021 waxaa ku dhawaaqday olole ama barnaamij aad dhaqaalo ku weydiisanaysa shacabka Soomaaliyeed si looga gudbo gacan hoorsiga shisheeye sidaa sheegtay dabcan ololahaas waxaa ugu magac dartay masiirkaaga maalgasho in dhawaalaba waxaan maqlaynay akooma inaad ka furtay bangiyada kala duwan oo dadka taageerayaasha xisbiga ama dadka kaleba ay dhaqaalo kusoo shubayeen mana la wadaagi kartaa lacagaha xisbiga usoo xarooday iyo qaabka aa u isticmaali doonteen si public camal yaay liban waa mahadsantaha camey gudoomiyaha xisbiga wadajir isna waa mahadsan yahay camey intaa hadlaysa waxaa ka hadashay cv-ga hogaamiyaha xisbiga waxaa sheegtay inuu wasiir soo noqday un kan la taliya oo ka noqday marna oo wada hadaladii oo ka dhacay jabuuti casmada marka qeybo badan oo naga dhimanaa jiro madaxweynaha intuu ku dhashay goormo buuliburta ka yimaaday ingiriiska muxuu ka qaban jiray ma shaqey jiray masuu iska joogi jiray jaamacadaha ha iskuuladoo dhigtay xisbigaanoo hadda oo hogaamiyaha ka yaha waqtiga dheer in lagula tartamo ogolaya mise wiilkiisa waa maasanta haddaad cv-ga doonis malaha haddaad si family dadto inaa xidid la noqotid ma garanayo then we will waxa aad si private u raadsi liban aad aad maasan tahay cabdinaasir soo dhowo waa maasan tahay camey xasan geesiye madaxweyne adigana waa maasan tahay inaan dadka hor imaado oo ogolaatin su-aal lagu weydiiyo su-aal waxaan ku weydiiyey cabdicasiis golf yare iyo mataqaanaa raxmana hore ku weydiisay inaan dhammaystiro qaybta ka dhiman lacagta aad aruurisay mataqaanaa ka aruurisay dadku taageersan oo kala duwan oo meelo kala duwan joogo
lacagtaas ma laga yaabaa haddii dagaal dhaco oo iska hor imaad imaado inaad lacagtaas aa u adeegsato wax ka baxsan wixii aa u aruurisay oo inaad hub ku gadato inaad qoryo ku gadato inaad ku dagaalanto shacabku waa inay ogaadaan arrintaas si mataqaanaa haddii ay kusii taageerayaan haddii kale ay u fiirsadaan ama saddexda su'aalood qaadan laba su'aalood noqotay maxay qof su'aal aan lagu talagalno meeshii la yimid which we not accept Cabdinaasir iyo wuxuu ahaa qofkii kale ma xasuusto qofka laakiin I hope inaan note garaysatay Cabdiraxmaan soo dhow عمي horta waxaan rabaa inaan 20 daqiiqo kale fursada aan bixiyo maadaama aad sheegtay ama ugu badnaa 30 daqiiqo ilaa iyo inta ka dhiman 25 daqiiqo aan dhaho ka dhiman 25 daqiiqo aan bixiyo oo kale haddaan ka jawaabo inta ka dhiman 12ka inta aan ka jawaabo Cabdicasiis Golof waa sheegi doonaa waxna soo galay iyo inta ay yihiin runtii annaga nafteena filasho weyn hadeertaan oo lacag kambayna oo tiro badan oo hol ku qabanno ma filayn laakiin annaga waxaan ugu muhiimsan waxay inay wacyigelin tahay citizenka ay ogaadaan power inay leeyihiin awood inay leeyihiin ayaga ay maalgasho karaan masiirkooda waa bilow fiican waxaan rajaynayaa dad kale oo siyaasadda ama murashaxiinta ay nala qaadaan oo ay wacyigelinta qayb ka noqoto oo ugu dambeyn aan gaarno sida adduunka kale uu yahay iyadoo lacagaha campaignka regulation ama sharci loo sameeyo meelahay ku baxayaan la og yahay cidda bixinaysa la og yahay dhowr jeer aan ka dhawaajiyey wadamada qaarkood qofku waa inuu sheegaa qof kasta waxay siisay heerkaas inaan gaarnaan aan rajaynaya waa dhigleer garay doonaa waa cadday doonaa hadduu ilaah yiraahdo shaki ma laha waa sheegi doonaa intana soo gashay iyo inta ay yihiin laakiin su-aasha hore uga jawaabay waxaan sheegay dadkii iyo annagiiba waxaana niyad jebiyey in doorashadiiba ilaa hadda la la'yahay markaas waxaan islahayn agreementigii doorashada waa la gaaray howlaha socota xaalku waa fiican yahay laakiin hadda waxaa muuqata in god dheer runtii arrintii doorashada ay ku dhacday waana rajaynaynaa inay aan soo kabanno aan nimaadno garoonkii lagu ciyaari lahaa si dadkii ay markaas fursaddaas ay mar kale u helaan Cabdinaasir aan u malaynaa su'aal liibaan waa ka xumahay dee fursad lama siin oo su'aal ku jawaabo in la siiyana waa rajaynayaa Cabdinaasir aan su'aal uu ku weydiiyey Cabdinaasir maya annaga mar aan hub aan gadayno runtii ma jirto oo dad waxayna siiyeen annaga doorasho yaan ku bixinaynaa doorashaa la yidhahdaa dagaal ma aha marka waxaana la siiyey waxaan ku bixinaynaa waa doorasho dadka heshiiska aan la galnay iyo ballanqaadka aan siinay waa taas ma aha dagaal iyo doorashana farqi weyn ayaa u dhexeeya saan isleeyahay marka taas waa ballan qaadaynaa hadduu ilaah yidhahdo maasantii saddex qof hadda noo soo gashay ayaan rabnay inaan si nacmay zaki soo dhawaad walaal asalaamu calaykum waa salaamay daadihiyaasha iyo murashax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur warsame mudane cabdiraxmaan hadda waxaa ka dhawaajisay intaa hadlaysay inaan u baahannahay doorashadii oo ka dhacday puntland oo kale aanan u baahnayn doorashadii baydhabo ka dhacday sidoo kale waxaan ogeynay doorashadii jubbaland ka dhacday inay dhammaan murashaxiinta hadda u taagan xilka ay aad u taageereen oo jubbaland la wada tagay marka badanaa waxaa afka ku dhufataan inay puntland baydhabo iyo galmudug iyo hirshabeelle wixii ka dhacay ee aad u yaraayeen halka labada maamul oo kale aad u malaysaan doorashadii ka dhacday inay sax ahayd marka miyaanan la fahmi karin inaad dhinaca idinkaba xataa u jarjeertaan sida dowladdu ay dhinac uga rarantahay idinkana aad dhinac ka rarantihiin su-aasha labaad haddaan soo koobo waxaa waaye mudane haddii aad lagu doorto adiga maanta oo aad madaxweynaha soomaaliya naqato 2009 sheekh shariifaa noqday han weyn aan ka lahayn markuu baxay waa ogeed waxaan ku dhignay 2012 xasan sheekh oo civil society-ga ahay wixii ku dhac waa ogeed farmaajo aan islahayn diasporada iyo qurbo joogto ka faa'iideysanayaa maanta waxa qof kasta ay ku dhahayso waa loo jeedaa oo magaaladan joogto adiga maanta haddii lagu doorto 2025 haddii la gaaro soo lagama yaabo ayadoo intii yarta ahayd oo hadda garbahaada joogta aad isnacadeen adigana inaad sarta ka soo baxdo maxaa kusoo kordhinaysaa labadaas su-aal aan qabaa waana mahadsantihiin oo ka baxa shine aad iyo aad baa idiin salaamayaa aad baan barnaamijka ula dhacay siduu u daahfuran yahay oo musharaxa su'aalo waxgala oo aan faafreeb lagu samayn loo weydiinayo nin adayg la oday weeye ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego musharaxii sulunku reebaan ahaa waa tartamayey laakiin laga bilaabo caawa cabdiraxmaan baa u tiraasulay
musharaxa su-aal baan weydiinayaa su-aashaas waxa waaye somaliland oo dal gooni ah hadda sheegtay oo muddo arrinteeda taagnayd marka uu hadallada jeedinayo waxa moodaa qadiyadooda inuu aad ugu nugul yahay maxaa uga qorshaysan sidee buu qadiyadda u qaabilayaa sidoo kale gobollada somaliland sheegato waxaa jira gobollo aan ogolayn inay goostaan sida awdal sool iyo sanaag gobollada iyaga qaab noocee ah buu ula macaamili doonaa waa mahadsantihiin waxaa ku xiga farxa soo dhawo walaalo mahadsanid asalaamu calaykum dhammaantiin waan salaamay xasan iyo camey hogaamiye cabdiraxmaan cabdishakuur aad baan kuu salaamayaa anigu su-aasheedu waxay tahay ayaan dhaweyto waxaad soo bandhigteen markaad la shirteen ra-iisul wasaare rooble inaad dooneysaan inaad ka qayb gashaan codkayga midinka go-ayaan kaano qofka uu noogu dambeeya soo galay khadar codka xir ha waxaan kusoo celinayaa ayaan dhaweyto hogaamiye waxaad ku shirteen dekaal hotel dekaal idinka iyo ra-iisul wasaare rooble waxaad soo saarteen ood ka hadasheen inaad dooneysaan inaad ka mid noqotaan saxiixayaasha heshiiska doorashada oo 17 Sebtembar laisku afkartay taa weli ma idin taagan tahay tan kale haddii maanta insha allah beri waxaa la filayaa madaxweyne dani ay isfahmaan ma aqbalaysaan natiijada ka soo baxda heshiiskaasi la wada saxiixo laisku afkarto ma aqbalaysaan natiijada ka soo baxda intaa hore aan qaadano marka inta hore aan qaadanayna saddexda qof aan noogu dambeeyo doonta diyaalo waa mahadsantihiin su-aasha ugu horeysa zaki jubbaland dabcan dhiig kuma daadanin musharaxiintiina lama xirin dagaalna kama dhicin laakiin doorashada nuqsaan ma leed ha waa lahayd doorasho aan nuqsaan lahayn maba jirtaba puntland nafteeda waa leedahay laakiin muddo aan isleeyahay puntland waa midda ugu ishandar fiicneed ugu macquulsan dalkan ka dhici jirtay xukuumadihii hore iyo dowladihii hore naftooda manipulation waa jiri oo doorashooyinka way manipulate gareynaya laakiin waxaan ka hadlayna waxaa waaye waa violence iyo dhiig iyo gacan ka hadal waa waxaan ka hadlayna meeloo ka dhacay marka taas halkaasaan ka leeyahay haddii aan meesha gasho saa noqonaysid sidii amaan noqoto horta dee madaxweynayaashii hore hadda sheegtay sheekh shariif iyo xasan sheekh iyadoo dalka cabsi iyo dagaal sokeeye iyo natiijada doorashada laisku haysa kama aysan tegin xukunka si nabaday ku wareejiyeen si nabaday talada ku dhiibeen doorasho laisku raacsiin natiijadeeda wada aqbalsan yahana waa qabteen inta laga raadinaya hadda ninka odayga oo xilkiisa dhammaaday waa intaas intii aan laga la'yahay taas inaan ogaano waayo marka inaad isku qaladno qof walbaba aan isku meel gelino it's not fair sax ma aha markii hadal jeegaysa hadalkaaga waa inuu kuu xisaaban yahay oo aad dadka u noqotaa cadaalad caadila u noqotaa qur-aankana dhahayaba maaragtay waa in qultum facdilu haddaad dhahaysaan xataa cadaalad sameeye marka madaxweyneyaal talada si nabada ku dhiibay doorashada isla ogolyahay qabtay adigii looga adkaaday tahniyadeeyey xilka ka tegey waxqabadkoodii maxaa ka xun maxaa ka san waa arrin qiimeyn u baahan anigana hadda maahay ninkii qiimeynayay idinkaa qiimeynaya iyo taariikhda iyo dadka siyaasadda dhigaa intaba laakiin hadda waxaan isku hayna waxaa waaye masiirkii dalkaaba halis ku jiraba oo meeshaan taaganahay waa halkaas waxaa kuu soo haray shiine musharaxa shilinka reebay sanaag iyo somaliland markaan ka hadlayo aniga sax waaye aniga ma ogoli somaliland in laga joojiyo maalgashiga in la cunaqabateeyo oo la cunaqabateeyo gargaarkeeda ama horumarka midka bini aadanka intaba in la cunaqabateeyo ma ogoli in loo isticmaalo awood dowladeed loo isticmaalo oo lagu cunaqabateeyo oo lagu dhibo aniga waa kasoo horjeedaa ma ogoli in waxaa kamid ah haddeerta waxyaalaha somaliland laga soo qaado waxaa kamid ah inay dowladda soomaaliyeed federaalka ay maamusho hawada dalka tusaalaan ku siinayaa hawada dowladda in gacanta loo wada geliyo oo laga wada tanaasulo dowlad goboleedii xataa ay somaliland ay ka tanaasuleen waa ogtahay oo markii ugu horreysay ayadii abuse garaysay oo ay ku takrifashayoo waata jubbaland ka joojisay diyaaradaha oo dadkii isbitaallada ayagoo dhimanaya oo dadkii waayeelka caafimaad darro jirtay meel mara la waayo sababtan ay tahay axmedooba iskhilaafsannahay marka waxa laga hadlaya waxaa waaye inaan awood dowladeed loo isticmaalin waaye annaga waxaan ka hadlayno oo aan horumar iyo laga hor istaagin gargaar bini aadan ayagoo magacii dowladeed la isticmaalayo territoryga somaliland
iyo jubbaland iyo puntland iyo galmudug iyo south west iyo meesha rabtadhe iyo hirshabeelle dowladda xamar joogtaa meelay awood ku leedahay amarkeeda ka socdaa ma jiro laakiin waxay leedahay waxaa waaye dujiir wax la yidhahdo qaanuun ahaana awooddaas loo siiyey adduunku aqoonsaday marka inaa abuse garayso oo ku takrifasho sax maaha taas waa tan ka hadlayno waa sheegay dooda somaliland iyo soomaaliya ama dowladda federaalka ee somaliland see loo xalinayaa sool iyo sanaag iyo goboladaas oo dhan iyo annaga iyo somaliland federaalka see loo wada hadlayaa waa taan iri in la dersay u baahan tahay dowladda federaalka ah dowladaha xubnaha ka ah member stateska wax la yidhahdo iyo dowladda federaalka iyo dadka siyaasiyiinta ah iyo dadka concernka qaba iyo bulshada rayidka ah oo horta federaalka ah ee is ogol hadda federaalka ogol inay ka heshiiyaan horta ayaga waxay isku haystaan inay ka heshiiyaan oo ayaga naftooda waxa u taalo nidaamkii xukunka sidii khayraadka loo qaybsanayo sidii awoodda loo qaybinayo sida dakhliga loo qaybinayo dastuurkeena waxaas dhammaystirkiisa qayb ka yihiin ayaga waa inay qayb waxa ay ka wada hadlayaan ay noqoto walaalahan somaliland gooniya isku taagnay dhaheene maxaan ku qanci karnaa oo midnimada ugu soo celi karnaa maxaase aan uga tanaasuli karnaa maxayse tahay inaan la hortagno maxaa leenka ugu dambeeya ah wax walba miiska miyaan saaraynaa mise waxaa miiska la saaraynaa jiro doodaas horta annaga inay dhex marto waaye marka annaga iska qancino oo waxba isla meel dhigno aan walaalaheen aan ku wajahno arrintaas iyo u baahanta arrimaha sheegtayna taasay ay ku dhex jiraan farxa annaga keliya ma dhihin runtii waxaan arkayay war saxaafadeed ka soo baxa xafiiska ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta oo dhahaya walaalay waxay ga codsadeen inay shirka qayb galaan annaga shir in laga qayb galo maaha waxa muhiimaddan u soconno qadiyadaha miiska soo saarnay cadcad oo la og yahay oo ah security-ga doorashada waa kow waana ku celinaya aniga nin beebaha hoteelka aan deganayo ku horgoynaya doorashada ma gelaya aniga diyaar nuumiinaa la galo waxay tiri ma aqbalaysaa heshiiska haddii heshiiska hadda loo balansan yahay ay ku jirto ninka aan la tartamaayo oo asaga awood u leeyahay inuu hoteelka aan deganayo ama guriga aan deganayo ama xarunta xisbigayga ama kambeynkayga xaruntiisa inuu beeba soo hordhigto diyaar uma ihi oo ninka taliyaha ciidankaan dhihi karin madaxweyne arrintan waa siyaasad ninkaas waa siyaasi doorashada kugula jiraa aniga gurigiisa ma aadayo beebana kuma horgoynaayo hoteeloo ku shiraayane aniga ka banadi maayo laakiin haddii taliyiisa nabad sugidda hoteelkan ku shiraayo uu banadaayo xarunta soomaali inay shabaab kula dagaalamaan oo ciidankeeda ku dhistaan loogu talagalay haddaa i leedahay ninkaas aqbal doorasho la gal I don't think so inay fair tahay arrintaas marka waa inaan meel isaga ogaanaa beebaha yaa amraaya ciidanka nabad sugidda yaa amraaya ciidanka booliska yaa amraaya siyaasadda bannaanka ma ka joogaan ma dhihi karaa taliyaha nabad sugidda ama taliyaha booliska ama taliyaha militariga hadduu dhaho madaxweynaha nin musharax oon tartamayno xafladow kambeyna ka banad gurigiisa beeba ku horgoy habeen saqdhaxa weerar noo ma dhihi karaa allah u naxariistee taliyii hore booliska axmed jaamac hadda dhintay waa la socotaan dhacdadii shacali suufi markii la amro in la weerar ma weeranayo dhah aniga ilaa hadda waxaan leenahay taliya ciidamo dhaa madaxweyne sorry sena caabidiin tunisia waxaa la socotaan markii shacabka ay soo baxeen ay soo mudaharaadeen markuu yidhi ha la laayo taliya ciidankaa diidi oo madaxweyne raalli ah adaa sahlan loo inaad baxdo shacabka in laayo maaha marka annaga waxaan rabnaa taliya ciidan aan dhahayn aniga mishaaraan qaataa oo mishaarka farmaajo kuma siiya shacabka soomaalida ku siiya canshuurtiisa lagaa siiyaa waa inaad sharciga dastuur ku hoggaansataa dastuurka ku qoranta ciidanka inay siyaasad dibadda ka joogaan haddaa ay leedahay marka nin saasa la tartan heshiis kastoo lagu soo gaara annaga ma ogolin saas daraaddeed arrinta security-ga waa in meel la saara arrinta xorriyadda siyaasadda oo kambeynka si xora inaan u samayn karo meeshaan raba aan mari karo waa in meel la saara ayada nafteeda arrinta ku saabsan mandate-ka madaxweynaha waa dhammaaday nin mandate-kiisa dhammaadine tala doorasho inuu wax ku yeesho sax maaha saddexaas arrina annaga miiska noo saaran waana mahadsan tahay xasan soo dhow aad umaasan tacmay hogaamiye cabdiraxmaan shukur aad umaasan tahay waktiga wax badan aan ku darnay waa sii wadi doonaa ilaa iyo hadda misac kale waxaan rabaa saddexda qof oo ugu dambaysa inay noo noqdaan waxaan su-aalo online nooga imaadaan ku gabagabeyn doonaa haddii ilaa yidhaahdo ilaa 5,000 oo qofa daawanaysa runtii waa mahadsantihiin inta nagu soo biirtay gadaal nooga timid waxaan rabaa inaan sii qofkan u qorantaa ma xasan iyo camey waa mahadsantihiin mudane cabdiraxmaan shukurna waa salaama ka qaybgalayaasha kale oo meesha joogana sidoo kale
hal su-aalaan rabaa inaan weydiiyo ustaadka ama hogaamiyaha xisbiga wadajir. laba maroo tartamay intaa ogahay laba doorasho oo tan tii labaad tahay. marka waktiga hadda maanta la joogo iyo xilligaas hore oo teeramka horena farqiga u dhexeeya. tusaale haddii aan u qaato xaaladda labada waqti, waxaan aaminsanahay in soomaaliya markii cabdiraxmaan uu tartamayo teeramka horaa in dowladnimada soomaaliya inay ahayd gaari socda oo dhammaystiran, laakiin laga muransan yahay oo dhaliishu ay tahay muu dhaqaaqa oo xoog ma u socdo oo meesha loo socdo way fogtahay ma dhaqso la socdo. laakiin maanta waxaa u malaynaa aaminsanahayna in gaarigii markii lagu wareejiyey dowladda hadda jirto iyo madaxweynaha hadda jira inuu dadkii hortooda iyo musharaxiintii inuu ku furfuray gaarigi oo qayb iyo boolbool u dhigdhiga. marka qofka cabdiraxmaan oo kale ah oo laba teeram issharaxay waxaa aaminsannahay qofku markuu madaxweynenimo raadinayo qorshuu la yimaadaa oo ku salaysan waqtigii markaas la joogo. marka teeramkii hore qorshihiisii haddii gaari xowli loo wada aheedoo isaga uu islahaa waa dhaqaaji kartaa, hadda baabuurka waa la furfuray. qofka marka uu isleeyahay habkaa wax u waday looma wada, waxaa dhici karta inuu yidhaahdo niyow balaayadan iga wad oo qof kaloo igu dhaama hal raadso. marka guddoomiyuhu ma aaminsan yahay in siduu wax u filanaya wax ka duwan jirto dhibaatadu inta hore ka badan tahay oo ay ku habboonaan karto in qofka hadduuna qorshe kale u hayn inuu yidhaahdo cid kale ha loo dhaafo. hadduu aaminsan yahay inuu qaban karana maxamed su-aashaada way caddaatay. anisa u gudbin maxamed adoor su-aasheeda dhammaystirkeedii ogolaa cumey hadduu og yahay ama uu qaba inuu qaadi karo oo marxaladan gudbi karo, waxaan rabaa inaan weydiiyo waxa ugu adagoo aad la kulmi doonto hadda aad sii saadaalinayso oo xaaladan cakiran darteed ka dhashay mid iyo laba maxay tahay oo aad filanayso inay kaa hor imaan doonto dadku ogaa doonaan. anisa soo dhawaa walaala. السلام عليكم دمان انت صومالي مش مجرد سلام قالية codkaa kor u qaad walaala aniso. السلام عليكم انت صومالي مش مجرد والسلام يا أنا هاي قبر كل لتي قربها كوكرتي وحول بقو مقالة كده عاين قلبيا مسكحين أقدريما ما لقيا بقينا وحس كبحنا وإن شاء الله هرقص عنه thank you. ما سنتها سيدا أسوق قبط ولالا أنيسو خضر سو dhawaa walaala. السلام عليكم ورحمة الله هجامي عبد الرحمن وأكو سلامة سيدو كل وحن سلامة دادياش حسن يا عمي سؤال شيء ده كوبنت هاي وحرب الدنيا هنا ويديو سومالي وحن كور هنا شركة لوقف تدقالات السوكي كدب شركة عرتو كله وحلو لو يكلل الدولة 4.5 أو قبيل كسلسن أفر سنة كدب إني واسعون ويس الدولة يو حمر ويداف ويسي حكومة بنتلان أم قبلات بنتلان وعبد الله يوسف الحين عبد الله يوسف هو جامينيو أيا لي متفكر كل كدوان كي هراء أو أها فدراليزم دستور كسومالي نساس أيا لوجو قري فدرال إني سومالي نقطة هذا الجوج مدحوينها عبد الله فرماجو أو حلقي سنة ماضي وحولي متفكر إن سوماليا أو أود بدن أو سنتراليس أو ما مقابلات كان كأوديرهن دولة محوها هاي فدرالك marka gudoomiyaha waxaan rabaa inaan weydiiyo iyo konstituensiga uu matalo guud ahaan fikir ahaan idinka ma waxaa taageersan tihiin federalismka oo dastuurka ku qoran oo Puntland riixaysay mise dowlad oo central oo awood badan oo isleenahay tii ilaa siyaad barre ilaa hadda soo socoto oo fikir ah noocaas mise wax ka duwanaa Soomaali u haysiin. taas waa su-aasha labaad oo kooban idan waxay tahay madaxweyne haddii ay suurtoobayso in aad ku guulaysatid ama wareegga koowaad oo kale yaa is leedahay waddanka waa lagu aamini karaa oo u codeyn lahayd. khadar waa mahadsan tahay. Xasan hoosoo soo dhow qof loo baahan tahay codkaaga. waan salaamayaa daadihiyaasha iyo hogaamiyaha xisbiga wadajir. laba su'aal oo kooban aan qabay. midda ugu horeysa sidaan wada ognahayba Soomaaliya maamulkii la doortaba waxaa hor yaalla dhowr fayl oo waaweyn oo in wax laga qabto ay tahay laga bilaabo dhamaystirka dastuurka ilaa doorasho qof iyo codar iyo amniga in lagala wareego xoogaga hadda waddanka jooga ee nacaawiya iyo howlo kale adigoo dhowr ah. laakiin qofka Soomaaliga oo madaxda ah wuxuu madaxweyne ku yahay ma aha in waddanka oo dhan wada haysto oo state authority ee waddanka ka jirta wuxuu madaxweyne ku yahay moral legitimacy ay shacabka Soomaaliyeed u hayaan.
ama dhulkiisa dowladda ha ka taliso ama qof kale ha ka taliyo marka mar walba oo la gaaro xilliga isbeddelka waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhici jira waxaa ka mid ah in qodob ka mid a qodobadaas waaweyn uu suuro galo oo ah peaceful transfer of power marka mar walba haddii peaceful transfer of power sidaan oo kale uu muran u galo wuxuu dhaawacayaa moral legitimacy-ga ee shacabka u hayaan qofka la doortay marka si aysan taas u dhicin mustaqbaliyan hogaamiyaha wadajir maxaa uga diyaarsan in si aan loo dhaawacin stateka uu arrintan peaceful transfer of power laga badbaadiyo muranka taas waa midda labaad oo aan rabo inaan weydiiyo qofka haddii uu peaceful transfer of power uu si fiican u manage garin waayo isagoo madax ah hadda waxay cawaaqib leedahay male ma is leedahay mustaqbalka cawaaqib ayaa kala mahadsan saasaan kusoo koob su-aalihii tooska ahaa halkaas ay nooga idlaadeen waad mahadsantihiin dadkii u suuroobi weydana ha naga raali noqdaan maxaa ahayd wadahadal dib baan iskaga soo noqonnaa marka hore cabdiraxmaan baan siinaynaa inuu su-aalihii ka jawaabo su-aalihii online-kaan u gudbaynaa marka 5 daqiiqo haysataa online iyo meeshaa rabta xamid haddaan weydiiyo su-aasha dhaaley codkiisaan garta ama ninkay u qoran tahay wuxuu yidhi gaariga horta 2 jeer ma tartamay hal maraa tartamay 2017kii taas inaan saxaan rabaa oo cod tartanka waxaan u qaanaa markii cod lagu qaado aniga waxaan isleeyahay gaariga saa u dhigtay sax waaye gaariga awal muu dhaqaaqaan lahaa isbiidkiisa ama xawaara uu ku socdaa dooda ka taagneed laakiin haddeertaan waxaa yimid gaariga in la furfuray saa u sharaxday runtii aadan kugu raacsanahay laakiin waxaan isleeyahay intaan hadlayay 4 sano hadda hadlayay runtii aan taagnaa oo dadka hadda musharaxiintii aan tartanay 2016 ama 17 bilowgeedii ninka ugu dheer haddeertaan oo dood siyaasadeed qabay oo soo bandhigtaanahay marka dadkaan u daynayaa inaan fahamsanahay ciladaha meesha ay ka jiraan iyo gaariga horteeda lagu furfuray inaan wax ka galay in kale ayaga inaan u daayaan rabaa taas aniga inaan isqiimeeyo runtii ma rabo waxaan isleeyahayna inaan wax ka ogahay ama aan ka fahamsanahay ila tahay maxaa saadaalinaysaahoo runtii ugu waaweyn ciladaha waxa ugu waaweyn waxay tahay runtii su-aal kaloo hadda ugu dambeysay hoose weydiiyey la xiriirtaa dadka talada soomaaliya loo dhiibaa runtii ma haystaan authority buuxda ma haystaan sababtoo shacabkana sooma dooranin sovereigntiga ama madax bannaanida ama siyaadada dalka ma dhammaystirna albaabadeenna waa sheegeen waa ballaqan yihiin waxay u ballaqan yihiin waxaa waaye gudahan isku haysanaa albaabadaas ballaqanna adduunkii dhib weyn yaan uga geysanay isagiyaa nagu soo baxoo la dhex jooga dowladaha qaarna waxaa waaye conflictiga ama muranka dhexdooda ka jira ayagaa ku filan inay xaliyaan oo ay maareeyaan dowladahan weliba dunida saddexaad lagu tilmaamo markasta uu dhaca conflictiga xukunka la xiriira ama talada dalka sidii laisugu wareejinayo ayagaa maareeya mararka qaarkood waa lagu soo baxaa oo kusoo bixitaan kooban adduunka kusoo baxaa oo la kala celiyaa hadda kenya dariskeena 2007 crisis ka dhacay oo gacmaha la iskula tegey laakiin adduunka kusoo baxo waa la xaliyay waa laga tegay shaqadoodii waa sii wataan hadda crisiskii oo kale ama mushkilada kale inaysan dhicin wax BBI ay leeyahay u samaysteen Ethiopia hadda markii transitionkii ama kala guurkii uu dhacay waa maaray weysay hadda adduunka inuu faragashtay u soo socotaa ayadana Suudaan weli transitionkii ama kala guurkii way maaray leedahay oo culaysa ka haysta gacanaha laga siinay adduunka laakiin weli in la soo faragashto toos lama gaarin Uganda saasoo kale transitionka waa ku dhiban tahay Tanzania waa sidoo kale marka waxaan isleeyahay annaga waxa kaliya oon haysanay waxay ahayd moral legitimacy-gaas ama dadku inay aamineen dadka madaxda ay talada ku aamineen inay lagula shaqaynayay marka hadda waxa ugu weyn oo dhaawac oo dhacaa waxay tahay in aaminaadii ay meesha ka baxday dadkii ka wada shaqaynaya geedi socodka dhismaha dowladda iyo nabadda Soomaaliya ay kala aamin baxeen shaki oo jiro Soomaaliya siinaya markii aan runtii inkastoo ay aad u xanuun badan tahay in la sheego markii aan ku shiraynay hotelka shirka xukuumadda xilgaarsiinta oo ka socday dadka taageerayaasheena annaga
fariimo aad u tiro badan iyo xog kala duwan la ka siinayay in la sumaynayo raashinka sunno ku daray waxaa la sheegay hadda madaxweynaha Jubbaland hadda markuu imaanayo waxaa la sheegay in diyaaradiisa la soo ridayo dabcan maalintuu yimid airport waxaa ka dhacay hawyaala lagu tuuray yaa tuuray waa su'aal isweydiin u baahan macnihii waxaa la abuuray xaalad ah in la kala shakiyo oo la aniga mise waxba lama maqlay codkaa dhumay laakiin hadda waa okay umlena cabdiraxmaan ma maqashaa hogaamiyaha xisbi mana maqlayaa xaggiisa codka ka dhumay xaggiisa codka ka dhumay so let's give him a minute or two raalli hada ma aaminsani su-aashu qalbi weydiyaan kusoo noqonaya oo ahayd federal kama aaminsantihiin ha ani shakhsiyan ka hadli karaa aniga sida hadda cami uu sheegay markuu introductionka bixinaha ama hordhaca aniga waxaan darsay constitutional lawga weliba waxaan darsay comparative federalism wax la yidhaahdo dalka aan ku darsay waa Malaysia waa dal annagana lamida dagaal sokeeye soo maray awoodo isdiidan ay ka jireen oo sultans wax la yidhaahdo dagaalamaya muddo nidaamka federaalka ay ku heshiiyeen federaalkoodaas markuu bilaabanayo almost confederaal u ahaa federaal ma ahayn sababtoo ah gobollada ama sultanska meelaha haystaan awoodahooda xoog badnaa dowladda dhex xoog ma lahayn laakiin xilli markuu socdoba waxaa soo xoogeysanaya awoodda dowladda dhex ay helayso mar kasta ay hesho ciidaadda shacabka taageerada shacabka horumarka wax ka qaban karto xasiloonida dalka ay ka shaqayn karto horumarka dhaqaalaha ay wax ka qaban karto waxaa soo xoogeysanayay awoodda dowladda dhexe ee federaalka ah ilaa haddeertaan mar dhexe oo la joogane awoodihii jin ay noqdeen markii dambena dowladda federaalka awoodihii xooggoodii qaadatay dowladda goboladiina waxaa loo daayey inta dastuurka ugu qoran ee lagu heshiiyey marka aniga waa qabaa xilli way imaan doontaa awoodaha la isku miisaamo oo qolo walba awooddeeda la siiyo laakiin haddeertaan la taagan yahay waad aragteen haddii maanta runtii baabihii turkida ayna siiyeen oo xabadda karinaya shabaab in lagula dagaalamo loogu talagalay ama ciidanka xoogga dalka soo lagu dhisa loogu talagalay loo isticmaalay madaxweynihii xilka ku wareejiyey madaxweynaha hadda jira oo xilligiisa dhammaaday hadduu diyaarad haysa lahaa mashaki aan kaga jirin axmedoobe ku duqay lahaa ama kismaayo u duqay lahaa mashaki aan kaga jira waa duqay lahaa hadduu daroon haysa lahaana anagoo nagu xasuuqi lahaaba marka waa daas waa fiiri UN monitoring group Soomaalida way dibsadaan kuwa dabagalka hubka ah ilaa la ogaado Soomaaliya hubka imaanaya in si sax loo isticmaalayo inuu ku daba jiro waa masacba hadday dadka Soomaalida dareemay hadda waxaa la dareemay haddii xamar lagu kala tagay dhibaato ka dhacdo oo dowladda markaas joogto ay dadka abuse gareysay dadkana ka hor imaadaan inaan meel la aadi karo dowlad goboleedii ay nabad yihiin oo hadda culayska ugu badan rejiimka hadda xilligiisa dhammaaday meesha ku hay waa Muqdisho dowlad goboleedyada kale shaqaaqo iyo fidniin oo ka dhex abuura maahane dhibaato toos u geysan karo awoodeed ma jirto marka annaga waxaan u baahannahay inuu systemka saas u dhismo doodda ay socoto isjiidka uu caadi yahay sideedaba nidaamka dimuqraadiga wuxuu leeyahay nuisance wax la yidhaahdo buuq iyo qaylo iyo isqaqabsi iyo iskalaalaad iyo dood socoto waa asaga dhan oo la socotaa dowladaha adduunka u waaweyn dooddaas afar sac way ka dhex socotaa culayska waa ka dhex isjiidka waa ka dhex socdaa laakiin nidaam kale taliska buuq ma rabo amarkiisa keli in la yeelo jecel yahay waa la yaaban yahay dadka kale oo kasoo horjeeda ra'yiga dadkii qawaadhibaysaa qaba because tiisa keli in la yeelo dad Soomaaliyada marka u haysta inay saas wax ku hagaagayaan sidaas wax si ku hagaagayaan maaha annaga federaalka principal oo naga yahay waxaan ku qancay marka anoo arday ah oo academic ah oo siyaasad ku jirna ku qancay nidaamka inuu xal yahay anoo siyaasi hogaami aye dad baa waxay leeyihiin dadkan degan banaadir iyo hareeraheeda
2004 political idea oo wadanka lagu maamulana may keen 2009 markii ay amxaarada la dagaaleen intooda badan dabcan dad Soomaaliyeed oo adiga chief negotiator-ka ka ahayd xukunkii baa 275 lagu daray laakiin fikir siyaasadeed dadkan banaadir jooga marnaba may keen qoladan hadda timidna waxay xukunkii kii dhexe ee awoodda badnaa ay ku celinayeen reer Puntland iyaga de federal bay marka hore la yimaadeen reer Bay Bakolna mar hore federal la doodi jireen qoladan banaadir iyo agaarkeeda degan dabcan oo adiga hogaamiyaashooda aad kamid tahay waxay u taagan yihiin oo de ognahay dabcan wuxuu maasan tahay doodaas aad qabto waxaa laga yaabaa in ay wax ka jiraan laakiin aniga waxaan aaminsanahay dadkan hadda waxay keeneen in waxaan ka hadlaynaa dooda federaalka waxaan aaminsanahay aniga dooda waana ku bilaaba hadalkayga xukunka dhexkataliskaha Soomaaliya u fiican oo awoodda dowladda dhexe inay gacanta ku wada haysato ee uma fiicna xukunka in la dejiyo oo la furfuraa fiican sidaa sheegtay aniga Buurburtaan ku dhashay markaa secondary-ga dhameeyay jaamacadda Xamara u soo raadsaday baasaboorka Xamara u soo doontay shaqo Xamara u soo raadsaday wax kasta oo nolosheeda ku xiran inaan Muqdisho u imaado ahayd sababtoo dowladda dhan waxay ahayd madax ka nool Muqdisho kaliya degan laakiin in xukunka la baahiyo awoodda xukunka la baahiyo nidaamka federaalka wax kala ma waa in awoodda xukunka la baahiyo marka annaga waxaan rabnaa dowladda imaanaysa oo talada Soomaaliya qabanaysa dhexe iyo haddii annaga ilaahay nagu guuleeyaba in dowlad goboleedyada lagula xisaabtamo awoodda inay dejiyaan dowlad goboleedka xataa ma aha inay caasimadaha awoodda taalla maaha waa in awoodda la dejiyaa oo gobollada lagu baahiyaa dowlad goboleedka ka tirsan iyo degmooyinka iyo local councilska oo lasoo doortay doorashooyin ka dhacaan oo accountability ay ka jirto dowladda federaalka marka intii ay ka shaqayn lahayd inay kala furfurto local grievanceska ka jira meelahaas ama tabashooyin ka jira intay u adeegsato nidaamkaas ay ka horkeento intay u isticmaal lahayd in waxaa fiican ay u isticmaasho awooddeeda iyo resourcekeeda inay ku kaalmayso dowlad goboleedyada si ayagana xukunka u sii daadejiyaan oo doodaas ay tahay midda caafimaadka ee furan ee naga dhaxaysa ay tahay aniga saasaan aaminsanahay waa mahadsantiin waxaan gabadhaan soo danacmay xasan soo dhow dad badana su'aal qabay waqtiga noo saabixi waayay dadkii aan dejinay oo soo saarnay waa ka cur daaranaynaa waqtiga aan jirin fursadu aaday dad badanna weli gacmaha u taagan waxaan rabnaa inaan soo gabagabayno su'aalaha online-ka nooga imaanaya rabnaa inaan ilaa iyo 5-6 su'aal aan ku khatino oo ku gabagabayno hogaamiye Cabdinaac Cabdishakuur dad badan ayaa online-ka nagu soo weydiinaya waxaa tartamaya 10 musharax oo ordaya oo u socda villa Soomaaliya Cabdiraxmaan muxuu uga mudan yahay isleeyahay su'aashaas waa kow su'aasha labaad oo dad badan online-ka nagu soo weydiinayaan weerarka lagu qaaday gurigaagii su'aalo badan ka soo laabtay waatan xasan cali khayr cafisay oo guriga kugu yimid wasaarihii hore Soomaaliya oo markaas rejiimka qayb ka ahaa haddii kuwa harsan ay ku weydiistaan cafis ma cafinaysaa sida uu cafisay camay marka su'aasha saddexaad aan rabaa inaan israacsado 17 September heshiis base looga dhigay ayaa aad loo hadal hayaa in la saxeexayo heshiiskaas dad badan ma fahamsana haddii sida uu yahay hadda loo saxeexo oo hadda waxa la filayaa inuu maalmaha soo socda imaado madaxweyne Dani waxa hadda jooga Axmed Madoobe waxa shiri doona oo idinka ka maqantiin oo banaanka ka joogtaan maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo waqtigiisa dhamaaday iyo wasaaraha xil gaarsiinta ah haddii go'aamo ay gaaraan oo heshiiyaan oo base looga dhigo 17 September ma aqbalaysaan musharaxiin ahaan soo dhow hogaamiyaha xisbiga wadajir maxaad uga mudan tahay musharaxiinta kale horta meeshii lagu mudnaa lahay horta aan isla gaarno maba la joogaba hadda musharaxiintii aniga waxaan ka wada shaqaynaa garoonkii kubadda lagu ciyaari lahaa horta inaan soo helno ninaa banaday isbaaro u taallaa isbaarada in laga qaado banadka laga wareejiyo oo liyaa saaxiibu haddaad dheesha rabto inaad dheesho luqadda haddaan yaalbeed ku hadlo dheesha kasoo qayb gal markaasaa laacibka fiican iyo midkaan fiicnayn la kala ogaa doonaa laakiin garoonkii oo lahaynin hadda aniga inaan dhaho intaasaan ka fiicanahay saxila ma aha meesheediina ma joogto sideedana qofka waxaa lagu qiimeeyaa aragtidiisa iyo barnaamijkiisa soo bandhigo
haddana meeshaan daqiiqadaha yarkaa yaallo barnaamijkayga siyaasadeed aragtideeda meelaan kusoo bandhigi karo runtii ma aha arrintaas waa ka cudurdaaranaya xilligeedana sheegi doonaa xilligeedana waa garoonkii oo la helo qaabka loo soo bandhigana waa barnaamij siyaasadeed oo tafatiran inaan soo gudbino weerarkii lagugu qaaday haddii cafis lagu weydiisto ma cafinaysaa waa sheegay aniga cafis 3 nooc waayaan ku yidhi aniga cafiskii xisbiga wadajir iyo aniga shakhsiyan na soo gaaray iyo dadkii asxaabteyda ay wadajir ka tirsanaa waxaan anaga xuquuqdana siyaasadda naloo diiday waana la xanibay dhibaataa naloo geystay wixii anaga wadajir nagu saabsan iyo shakhsiyan cabdiraxmaan ugu saabsan aan cafiyey aniga laakiin dadka laga dilay ciddii dishay inay maxkamadaystaan oo sharci la tagaan dadkaas dhiigooda ayaga iska leh iyo ehelkooda dadkii dembiga geystay oo ficilka geystay arrintaas ayaga iska leh midda shacabka soomaaliyeedina waxaa waaye dadkii awooddii ay ku aamineen oo canshuurtooda ay siiyeen oo powerka ay ku aamineen ay trust gareeyeen abiyuuska ay awooddoodii ama takrifalka ay ku sameeyeen say ugula xisaabtamaan taa shacabka soomaalida u taallaa marka midna shacabka iskale midna qoyskii iyo eheladii dadka laga dilaa iskale midna wadajira iskale annaga midkaan cafin waa ku celinaynaa wadajir waa ciddii noogu timaadana cafisay waan siinaynaa annaga oo si officiala nooga soo dalbato 17 September heshiiska ah waa sheegay inaan ku celiyana ma rabo 17 September annaga waa taageerna waana taageersannahay arrimo technicala ka soo noqday baydhaba lagu xaliyay leeyahay 16 February la xaliyay haddii ay wax macquul yihiin annaga weli ma arag waa taageersannahay ayadana waa taageeraynaa laakiin annaga waxaan la taaganahay dood la yidhaahdo 19 February aa jirto waana sheegay waa 3 qodob waa electoral securityga doorashada yaa maamulaya amniga iyo doorashada dalka 2 mandate-ka madaxweynaha muxuu yahay iyo kaalintiisa maxay noqonaysaa in la iska warsado waa ogtiina madaxweyne asaga ka horreeyey inay madashii ay tiri qor warqada ku wareejinaysa mas'uuliyadda oona qoray waana ku mahadsan yahay taasoo kale ugu yaraan markay ugu yaraato inuu soo qoro mid saddexaadna waxaa waaye isbeyska siyaasadda ama saaxada siyaasadda inay furan tahay oo qofka meesha rabo shir qabsan karo meesha rabo safri karo cidda rabo la kulmi karo xilligoo rabana uu mudaaraadi karo saddexdaas annaga haddaan la yeelaynin dee doorashadaas annaga doorashaan qayb ka noqon karno runtii ma ah waa mahadsantiin soo dhawaada xasan haye waa gabagabaysanaynaa markaan aad u mahadsantihiin waxaa jirta xasan intaa gabagabayn waxaa jirta su'aal hore loo weydiiyey haddana online-kana ku imanaysa oo 10 maxaad uga mudan tahay la socotay oo ah haddii yaad maxay ahayd qof baa wuxuu weydiiyey yaad siin lahay codkaaga haddaa adiga ahaan lahayd cabdiraxmaan hogaamiye waa mahadsan tahay timekii aan bixiyena waa abey xumay waa siyaasatay su-aashii ugu dambeysay waayo wax ka dambeey ma jirto waa ku mahadsan tahay intaana su-aasha ku dambeysa aan ka jawaabin dadka waxaan u jeedinaya dhegeysanayay inta ay gaaraanba in dadka sida la sheegay abaaraha ka jira dadka inay gargaaraan oo ay intii kari karaan dadka soomaaliyeed generosity-ga iyo gargaarka runtii waa ku fiican yihiin dhib badan oo soo marnayne annaga isgargaarnay oo ka baxnay maadaama ay dowlad awood leh oo wax ka qabataa dalka aysan jirin iyo wixii laga qaban kara wacyigelinta xaggeeda iyo taageerada covid-19 intaba inaan garab ka geysano su-aashaada u malay maayo inay su-aal meeshaan looga jawaabi kara ay tahay mana rabo saaxiibada aan tartamayno inaan idhaahdo hebelan aan sii lahaa codkayga hala gaaro xilligeeda imaanaysaa waana sheega ku celina haddeertaan musharaxiinta haddeertaan xilli ay tartamaan ama xilli ay codsi siiyaan ama xilli ay codsi ka tanaasulaan waxaa la gaaraya arrimahaasoo dhan imaanayaan garoonkii ay ku cayaari lahaayeen marka la helo garoonkii ma hayno garoonka horta aan helno cayaarta aan galno geymka hala cayaaro cidda bedelka ku baxaysa cidda aan bedel ku bixin hala ogaado markaasaan ogaanaynaa maalintaasaan ka jawaabi karnaa su-aasha ayada waa mahadsantihin aad mahadsan tahay waxaan rabaa inoo mahad celiyo cami files oo runtii doodan soo qabanqaabiyey oo doodii saddexaad oo lagu qabto isu imaatinkan platformkan clubhouse cami runtii doodaha noocan waa rajeynaa inay soo bataan oo dadka hogaamiyaasha banaanka imaadaan oo ay hadlaan waxaan rabaa inoo mahad celiyo inta ka qayb gashay waxaan rabaa inaan u cudurdaaro intii u suuroobeysay oo gacmaha soo wada taagay iyo su-aalahooda lasoo gudbin waayey in waktiga uu ciriiri ahaa
waa dood xiiso badan ay ahayd runtii sida loo xiiseynayay dadku su'aalaha weydiinayay sida loo soo galayay iyo sida caawa ay rekoor u tahay runtii in ilaa 5,000 4,000 dad u dhexeeyay ay dhegeysanayeen dooda cami yaa rabaa inuu noo khatimo waana soo xirnaynaa xasan aad u mahadsan tahay khibradaada aad uga faa'iidaystay sida loo moderate gareenayo iyo hawsha sida nugula wada aad u mahadsan tahay cabdiraxmaan sidaas oo kale sida furnaanshaha leh aan waxba maxaa ahayd la reebanayn oo dadka uu u dhahaya xitaa qof walba hala soo sii daayo su'aashiisa ha keensado waa geesinimo waa waxaan u baahannahay waa wax anaga aan doonayn inaan isku sacbin maxaa ahayd isku guulwadeen maxaa ahayd dadka madaxda ah xabadka gacanta laga geliyo lagu dhaco wax walba la weydiiyo marka waxaan ogeysiinayaa habeen dambe habeenada soo socdo waxaa hadda negotiation kula jirnaa qof culus oo madaxda Soomaaliya kuwa hadda jooga kuwa ugu culus ah oo xukunka fadhiya inaan amay faalis keeno marka follow gareeya xasan cali geesay iyo cabdicasiis golfyare iyo camay dabcan hogaamiyahana kulligiin waxaan rajeynayaa waa qof la taageero badan leh inaa follow gareysaan camay iyo xasan cali geesay golfyare haddaad follow gareysaan surprise kaas qofkas negotiation hadduu noo dhamaado waa nii soo bandhiganaa habeen dambe ICJ iyo badda laga hadlayaa iyo cali balcad madaxii hore ee madaxtooyada Soomaaliya haddana xildhibaan ah ayaa ku balansan oo arrimaha ka hadli doona ICJ iyo Soomaaliya Kenya u dhaxaysa hogaamiyaha waxaan ka rabnay caawa foreign policy dhan su'aal lagama keenin waxyaabaha aadka dadka Soomaaliyeedna kaaga xiiseeyeen waxaa kamid ah foreign policy waxaan ka rajeynaynaa mar maxaa ahayd lecture gooni ah ku saabsan foreign policy-ga maxaa yeelay sidii marka hore khudbadaada doorashada 2016 ku jirtay it was so prophetic inaad wixii gobolka ka dhacay in badan oo taabatay sidii ay u dhaceen marka waxaan ka rajeynaynaa habeen foreign policy aan inaan noo qabatid marka waqtigaaga uu saamaxo waan ognaa caaw inaad daalneyd oo maanta shaqo badan aad qabatay saasna aad maxaa ahayd aad naga yeeshan ood ku mahadsan tahay haddana mar kale waxaan u cudur daaranaynaa inta qofood ay gacan soo taagatay ee haleeli weeday caawa waxaan isku daynay qof annaga aan naqaana ama noo dhow intaan yarayn karna inaan yarna 9% random ayaan ku bixinay dad aanan garanayn su'aal walbana waa arkayseen sida loo weydiinay cabdiraxmaan uu ku mahadsan yahay sida uu yiri bareeraha u keenay uu fagaaraha u yimid aad u mahadsantiin qolol badan oo follow up oo doodan looga doodaya iminka furmi doona qololkaas hala kala aado qolkan waa la dilayaa waa mahadsantihiin habeen wanaagsan waa salaamantii dhamaan madaxweyne aad mahadsantahay thank you very much golf and no mahadsantahay amiin wanaagsan thank you bye